فارقت موضع مرقدي يوما ففارقني السكون. في القبر أول ليلة بالله قل لي ما يكون. الموت كلمة تقف عندها كل مفردات الحياة. الموت تتزلزل الأرواح حينما تسمع وقع خطاه. وقفت وراعني القبر ودمع العين ينهمر. سألت رفاة صاحبه أتدري الآن ما الخبر. وقفت وراعني القبر ودمع العين ينهمر. سألت رفاة صاحبه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الأخوات في الله، موضوع كلمة إن شاء الله تعالى سيدي هوري الله شيء وحوي الرحلة إلى دار الآخرة. وهيانك أما السفرت لو جتشره لنك آخره. waxay tilmaamaysaa ibni aadamku oo inuu inagu ka mid nahay inaynu safar iyo socdaal ku jirro. safarka aan ku jirnana wali inaynaan degin oo aynaan ka salgaadhin oo ay meeshaan ku soconnay iyo hoygii rasmiga ahaa inuu wali inoo laaban yahay. ibni aadamka ilaahay tabaaraka wa tacaala ayaa abuuray. isagoon jirin ayuu ka dhigay wax jira, sida rabbigan yidhi tabaaraka wa tacaala hal ataa cala alinsaani xiinun min addahri lam yakun shay-an madkuura inaa khalaqna alinsaana min nudfatin amshaajin nabtaliihi fajacalnaahu samiican basiira. insaanku waxaa soo maray wakhti uu ahaa waxaan la sheegin. waxaan la sheegin waa waxaan jirin. wax ibni aadam la yidhaahdo iyo aadamtoona xilli aynan jirin baa soo maray. kadibna ilaahay tabaaraka wa tacaala insaanka ayuu abuuray. asal buu lahaa oo aadam buu rabbi abuuray tabaaraka wa tacaala. kadibna xaaskiisii xawaa ayaa isaga laga abuuray feedhiisa. kadibna labadooda kulankooda ay kulmeen oo is arkeen ayaa ibni aadamku ka tarmay ama ka farcamay. waxaa qur-aanka kariimkii inoo sheegay
marxaladaha ibni aadamku uu marayo arrintaasina arrin falsafo lagu ogaan karo ma aha arrin taxaaliil siyaasiya lagu soo saari karana ma aha arrin ijtihaadaad iyo dadaal shakhsiya iyo waxay ila tahay ku imaan kartana ma aha waa arrin allaha tabaaraka wa tacaala callaamul ghuyuubka ah asagu uu ogsoon yahay sidaana uu ugu soo gudbiyey macluumaadka ku saabsan rixlada iyo safarta ibni aadamku uu ku jiro qur-aanku wuxuu tilmaamay marxalada dhowra wuxuu yidhi rabbigeen tabaaraka wa tacaala walaqad khalaqna al-insaana min sulaalatin min tiin ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون الله وحليه هاي إنسان كان أبو الري وحانك أبو الري من سلالة من طين صعد لصوص عي أما قيب لصوص أو لصوح حلي ورابضة كمدة أنت واحد تلمام استا أبو رستي آدم أصل كبشرك ama abulbashar oo allah tabaaraka wa tacaala wuxuu ka abuuray gabal carra ah oo dhooba ah oo laga keenay dhulka qaybihiisa kala gedisan oo wadata dabeecadii dhulka iyo midabkiisii oo idil dhulka kiisa madow kiisa guduudan midkiisa cad dhulka dabeecadihiisa dhulka suubaanta ah midka adag midka dabacsan qayb yar oo intaas oo dhan ka kooban oo dhooba aba alla ka abuuray tabaaraka wa tacaala aadam markii la abuuray kadib xawana laga abuuray feedhiisa ibni aadamka tarankiisu qaab kaluu alla ka dhigay tabaaraka wa tacaala oon carradii ahayn ثم جعلناه نطفة في قرار مكين is-aragga ay kulmayaan labada labka iyo dhadiga ah meeshaasuu ka dhex ibni aadamku markaa sii jiritaankiisa iyo tarankiisa halkaasaa asal u noqday oo rabbi tabaaraka wa tacaala uu asal uga dhigay wuxuu yidhi rabbi tabaaraka wa tacaala markii aadam la abuuray kadib uma jacalnaahu nutfa insaankii waxaan ka dhignay dhibic mani ah fii qaraarin makiin oo ku jira ama ku sugan meel la ilaaliyey yacni qaraarka waa minka ama makaanka ilmuhu uu galayo oo markuu ilmuhu galaba aad iyo aad meel adag oo ilaa 5 allah tabaaraka wa tacaala uu ka dhigay dhibicdii meeshaa gashay ayuu rabbi wuxuu yidhi tabaaraka wa tacaala uma khalaqna nutfata calaqa dhibicdii manida ahayd ayaa laga shaqeeyey waxay isu badashay xinjir dhiig xinjir oo fadhiya fakhalaqna alcalaqata mudgha xinjirtii dhiigga ahayd baa haddana laga shaqeeyey waxay noqotay cad yaroo hilib ah oo saaftin la dhihi karo oo hal mar afka la gelin karo la calalin karo kadibna fakhalaqna almudghata cidaama cadkaa hilibka ah ayaan ka abuurnay buu alla yidhi tabaaraka wa tacaala lafihii baa la bixinayaa oo wejigii iyo madaxii iyo lafihii qaybtoodii kale ayaa markaa cadkaa hilibkaa laga sameeyey fakasawna alcidaama laxma lafihii markii la sameeyeyna waxaanu huwinnay oon saarnay buu alla yidhi tabaaraka wa tacaala korka ka saarnay hilib yacni haragga iyo hilibka kor saaran wey uma ansha'naahu khalqan aakhar marxaladii hore uu soo maray oo dhan abuur ka gedisan buu noqday marka
yacni waxa way dhibic mani ah dhiig yaroo xinjir ah cad yaroo hilib ah lafihiyo la bixiyey yacni waxa way haraggan iyo hilibkanoo la saaray intaasoo dhan kadib wuxuu noqday khalqi kale wuxuu noqday ibni aadamka kaamilka ah naf baa la geliyey yacni waxa weeyaan yani dhammaystiran buu noqday allah wuxuu yidhi fatabaaraka allahu axsanu lkhaaliqiin allaha tabaaraka wa tacaala sidaa wax u sargooyey oo sidaa wax u abuuray oo sidaas wax u hagaajiyey allahaasaa tabaaraka wa tacaala muxuu ahaayey khayrkiisu batay oo saro maray markii uu sidaa ilmuhu uu uurka diyaar ugu noqdo oo nafta la geliyo oo wakhti uu qaato allah tabaaraka wa tacaala wuxuu u fududaynayaa haddana siduu ku imaan lahaa bannaanka isagaa imaanaya dabcan waa ilaahay tabaaraka wa tacaala sunankiisaa ku socda waa hawl rabbigeen tabaaraka wa tacaala qoondeeyo oo qorsheeyey wuxuu bilaabayaa marka inuu isu diyaariyo inuu soo baxo waxaa loo fududaynayaa meeshuu soo mari lahaa iyo siduu ku soo bixi lahaa waa midda rabbigeen tilmaamay tabaaraka wa tacaala uu leeyahay uma asabiila yassara jidkii buu alla u fududeeyey tabaaraka wa tacaala meesha uu soo marayo waa meel aad cidhiidhi u ah haddii ilaahay fududayntiisu ayna jiri lahaynna ma soo mareen haddii markuu soo maray kadib laysku dayo in meeshii dib loogu celiyo la mariyo ma suroobi karto allah tabaaraka wa tacaala fududayntiisu marka meesha ku soo maray kadibna adduunkii buu yimid adduunka hadduu yimid wakhti buu leeyahay ajal buu leeyahay mudduu leeyahay muddadaasuu noolaanayaa degmadan adduunyada ah wakhtiguu joogi lahaana waa wax qoran oo qoondaysan oo la qorsheeyey wey marxalada ku xigtaay waxay tahay marka uma innakum bacda dalika lamayituun wakhtigiinna markaad qaadataan laydinku talagalay wixii intaa ka dambeeya waxaa tihiin kuwa dhimanaya yacni waxa weeyaan waa geedigii baa lagu jiraa shalay maadan jogin waa lagu keenay meeshan iyo degmadan hadda aad joogto iyadana ma joogi doontida waad ka guuri doontaa oo waxaad mari doontaa oo sababtiisa aad ku tegi doontaa wax la yidhaahdo mowt kadibna waxaad u guuri doontaa nolol ka gedisan midda hadda aad nooshahay oo la yidhaahdo xayaatulbarsakh oo nolosha qubuurta dhexdeeda lagu nool yahay ah taa kadibna weli hayaankii iyo safarkii ma dhammaanin uma innakum yowma alqiyaamati tubcauun kadibna maalinta qiyaamada ayaa meeshii aad ku jirteen iyo qubuurtii laydinka soo saari doonaa ayadaasi marka waxay tilmaamaysaa bilowga ibni aadamka xaggee buu ka bilowday maraaxiisha uu marayo inta degmo ee uu sii mari doono ayay si gaaban ama kooban ayay aayaddu u tilmaantay waxaa la mida ilaahay tabaaraka wa tacaala qowlkiisa uu yidhi kayfa takfuruuna biاllahi wakuntum amwaatan faaxyaakum uma yumiitukum uma yuxyiikum uma ilayhi turjacuun seed ilaahay ugu kufrinaysaan oo rabbigiin u diidaysaan idinkoo ahaa wax aan jirin oo mayd ah markaasuu idin nooleeyey amwaadanta waxaa laga wadaa shay cadam ah wax jira maydaan ahayn kadibna allah tabaaraka wa tacaala waa idin nooleeyey oo wax jiruu idinka dhigay uma yumiitukum kadibna uu idin dili doono uma yuxyiikum haddana uu idin soo noolayn doono uma ilayhi turjacuuna kadibna xaggiisa laydin celin doono isagoo saa idiin maamulaya yaad haddana ilaahay diidan tihiin ood ku kufrinaysaan ood madax adaygaysaan waxaa la mid ah aayadda qur-aankae rabbi yidhi tabaaraka wa tacaala allahu aladii khalaqakum uma rasaqakum uma yumiitukum uma yuxyiikum alle waa midka idin abuuray oo idinkoon jirin wax jira idinka dhigoo idin soo saaray kadibna markuu idin keenay rasaqakum waa idin masruufay risqiiyo waxaad ku noolaan lahaydeen buu idin siiyey uma yumiitukum waa idin dilayaa uma yuxyiikum haddana waa idin soo celin doonaa waa idin soo noolayn doonaa marxaladahaasi waa marxaladaha ibni aadamku u mari doono wey innaga hadda iyo intayna la midka ah waynu joognaa degmadan adduunyadan joognaa waxaan soo marnay
marxalo hore oo ahayd maynaan jirin wax jira maynaan ahayn waa ka soo gudubnay waxaan soo marnay maraaxiishaas aayaddu ka hadlaysay oo uurka hooyo lagu marayo waxaan soo marnay intaasoo dhan baan soo marnay waxaan joognaa degmada adduunyo iyo daartii adduunyaan joognaa daartan adduunyo saan soo tilmaannayba wakhtigeedu waa kooban yahay ninkii ilaahay waxoogaa ka siiyey iyo ninkii lagu yareeyey ninkii lagu badiyaba wakhtigeedu waa iska kooban yahay kadibna waxaa xigta in aad ka tegi doonto ood ka guuri doonto oo socdaalkaagii hayaankii aad ku jirtay aad sii socon doonto waxaa imaan doono inugu xigi doonto ina soo haysa in allah tabaaraka wa tacaala wakhtigiisii inoogu talagalay markaan dhammaysanno intii ilaahay inugu timaado oo geeri timaado geeriduna waa xaqiiqo la sugayo waa intii inaga horraysayna way martay innagana iyadaan sugaynaa oo inugu soo foolleedahay waa xaqiiqa saas daraaddeed buu rabbigeen tabaaraka wa tacaala wuxuu ku tilmaamay inay tahay yaqiin wacbud rabbaka xataa ya'tiyaka alyaqiin rabbiga caabud inta yaqiintu kaaga imaanayso waxaa yaqiin loogu magacaabay bimacnaa waa shay la hubo oo biyo kama dhibcaan ah oon shaki ku jirin gaal iyo muslim toona uusan ka shakin karaynin maxaa yeelay waa xaqiiqa maalin walba lala nool yahay waay oo yacni waxa weeye dadkii ku dhalay iyo dad aad dhashay iyo kulli ay tegayaan saaxiibbo tegayaanoo qabriga lagu sii wado dad la sii aasayo marka waa xaqiiqo iyo yaqiin aan shakigeli karin waay waa xaqiiqo markay timaado aan sina laysaga celin karin waay waa xaqiiqo aadan awooddeeda lahayn inaad iska celiso waa xaqiiqo markay timaado haddii aad si kasta dadaal u samayso uusan dadaalku anfacayn caalamkao dhan hadday isugu tagaan inay kaa waabiyaanna kaama waabin karaan xaqiiqadaa iyada ah qur-aanka kariimka meelo dhowruu ku tilmaamay allah tabaaraka wa tacaala wuxuu yidhi kullu nafsin daa'iqatu lmowt naf kasta waa midii geeri dhadhamisa waa dhimanaysaa naf aan dhimanayn ma jirto waxaa qur-aanka kariimkii tilmaamay xilligaasi markuu yimaado oo geeridu timaado taxadarku inuusan waxba tarayn dadkuna ayna waxba kuu tari karayn dhakhaatiirtuna ayna waxba kula qaban karayn si walba haddii la yeelana geerida aan lagaa baajin karayn wuxuu rabbigan yidhi tabaaraka wa tacaala falowlaa idaa balaqat alxulquum wa antum xiinaidin tanduruun wanaxnu aqrabu ilayhi minkum walakin laa tubsiruun falowlaa in kuntum hayra madiiniina tarjicuunaha in kuntum saadiqiin markii ruuxa naftiisu ay timaado kalxama iyo dhuunta markay soo gaadho jidhka intiisa kale laga soo saaro wa antum xiinaidin tanduruuna idinkuna markaa aad daawanaysaan ood fiirinaysaan waa qaraabadii waa ehelkii waa dadkii ku jeclaa waa dadkii ku dhalay waa kuwii kula dhashay waa dadkii aad u dhaxday waa carruurtaadii wa antum xiinaidin tanduruuna fiiro waxaan ahayn ma heli kartaan xaaladda meesha socota inaad uun isha ka fiirisaan mooye waxba kama qaban kartaan wa antum xiinaidin tanduruun wanaxnu aqrabu ilayhi minkum walaakin laa tubsiruun annagaa idinka dhow hawsha meesha ka socota malaa'ig baa gacanta ku haysa malaa'ig baa shaqada haysa idinka waa dul fadhfadhidaan waa dul taagantihiin laakiin dhexdiisaa laga shaqaynayaa annagaa idinka dhow rabbi ilaahi tabaaraka wa tacaala falowlaa in kuntum hayra madiiniin haddii marka aan laydin abaal marin doonin oo abaal aakhara uusan jirin oo ruux walba wuxuu sameeyey aan abaalkiisa la marin doonin tarjicuunaha maad celisaan baa layidhi hadda idinku dhowdahay maad qabataan ood nafta ku celisaan hadday runtiin tahay oo miyaad celin kartaan maya dadka ruuxaad ugu jeclayd baa socda haddana maca daalika ishaa un inaad ka fiirisamay waxba kama qaban kartid kalaa idaa balaqat altaraaqi wa qiila man raaq
wadanna annahu alfiraaq waltafat الsaaqu biاsaaq ilaa rabbika yowmaidin ilmasaaq markay dhuunta iyo kalxamaha ay naftu timaado oo la yidhaahdo war yaa ku tufa waqiila man raaq yaa ku tufa war dhakhtar raadiya isbitaalka ula orda halla qur'aan saaro war yaa ku tufa dhakhtaray la yidhaahdo wadanna annahu alfiraaq asaguna wuxuuba xaqiijiyey marka oo hubaa inuu faaruqayo adduunyadan iyo noloshan oo ka socda idinkaas waalwaalahayo dhakhtar ula carar iyo ku tufa iyo qur'aan saarta ku haya mooye asagu xaqiiqa ahaan waa ogaaday inuu socdo waltafat الsaaqu bisaaq dhudhunkuna uu dhudhunka kale ku marmo ama shadaa'idda iyo dhibaatooyinka haystaayi ay noqdaan wax fara badanoo fooda iskula jiro isku maran ama ma ahee dhudhunkiisii intuu isku marmo labadii dhudhun uu kala qaadi kari waayo oo kala saari kari waayo oo awooddiisu ay dhacdo ilaa rabbika yowmaidin ilmasaaq xagga rabbigaabaa maalinkaa laysu wadaa allah tabaaraka wa tacaala xaggiis ayaa laysu wadaa maalinkaasi marka xeeladii ma jirto dhakhtarna ma jiro khalqigoo dhan hadday isu tagaanna waxba lagulama qaban karayo sidaas daraaddeed ayaa waxaa laga maarmaana xaqiiqadaasi soo socota oon wada ogsoonahay oo inaan shaki ka qabin xaqiiqadaasi waxay u baahan tahay talagalkeeday u baahan tahay xataa haddii cimriga lagu siiyo adduunku intuu jiraba haddii lagu siiyo oo aad noolaato noloshaasina geeri ka dambayso dherarkeediiyo gaabnideedu macno weyn ma samaynayso yawaddu axaduhum markuu rabbi tabaaraka wa tacala ahlulkitaabka ka hadlaya gaalada yawaddu axaduhum low yucammaru alfa sana wamaa huwa bimusaxsixihi min alcadaabi an yucammar midkood wuxuu jecel yahay in 1,000 sano la cimri siiyo 1,000 sano inuu noolaaduu jecel yahay 1,000 sano noolaatay cimrigana lagu dheereeye ma cadaab bay kaa badbaadini soo laba gooraba geerin kugu imaan mayso ama ha daahdo ama ha soo degdegto ama ha dib dhacdo marba hadday tahay xaqiiqo aad waajahayso cimri dheer iyo cimri gaabani waa isku mid marka wixii kuu dambayn lahaa hadduu kuu soo horreeyo ama wax yar kaa dib dhaco laakiin ay xaqiiqo imaanaysa uu yahay ka'anna shay dhacay oo kale waa wuxuu soo saaray alimaamu muslim calayh raxmatullah xadiid abu hurayra ayaa nabiga ka waranayay sal lla alay wasalam wuxuu leeyahay rasuulku sal lla alay wasalam jaa'a malaku lmowti ilaa muusa calayhi salaam malakulmowtka malagga oo nafta qaada ayaa nebi muuse u yimid markaasuu wuxuu ku yidhi ajib rabbaka muusow rabbigaabaa kuu yeedhaye ajiib inakeenoo rabbigaabaad yaa kuu yeedhahayuu ku yidhi falatama muusa cayna malaki lmowti fafaqa'ahaa nebi muuse calayhi wacalaa nabiyina asalaatu wasalaam wuxuu u qaatay malaggu wuxuu ugu yimid suuro bani aadam sidii nin caadi oo kale aba ugu soo galay nebi muuse marka wuxuu u qaatay in uu yahay yacni ibni aadam weerar ku ah oo dhib inuu u geysta doonaya nebi muuse calayhi wacalaa nabiyina asalaatu wasalaam bahal dharbaxaa buu malaggii indhaha kaga dhuftay kadibna il buu ka riday waa malakulmowt farajaca almalaku ila allah tacaala malaggii ilaahay buu u noqday isagoo ila markaasaa wuxuu yidhi innaka arsaltanii ilaa cabdin laka laa yuriidu almowt rabbiyo waxaad ii dirtay addoon addoommadaada ka mida oo geeriba aan rabinba inuu dhintaba aan rabin waaba ila dagaalamay waa i dilay ayib waqad faqa'a caynii ishaydiina waaba ridayba faradda allahu ilayhi caynahu malaggii ilaahay baa ishii u soo celiyey markaasaa wuxuu ku yidhi irjic ilaa cabdii addoonkaygii ku noqo waa nebi muuse oo waxaad ku tidhaahdaa alxayaata turiid ma nolol baad rabtaa muusow
فإن كنت تريد الحياة فضع يدك على متن ثور هداد نولول ربطه وتصيدا إناد نولاتبق دونيسو ديبي كوركي سك عنت هذا صار فما توارت يدك من شعره فإنك تعيش بها سنة عنت هذا انتي قادو أو تنت الدبقة أو السنضات أياد نولاني ساود لهذا يعني مركز عنت هذا آتسارتو دبي كوركي إن الله انت تن عنت هذا أي قادو تن والبهال سنة لقاقا لقيا نولش شاسان نقاضا نيسا حتى الدنيا سا إن النولات دوني سوا طيب نبي الله موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام ملك الموت باكوسو النقضي ويمت فرينتي ربي جيبو سو قارسي كدبنا النبي موسى وحوري ثم ما محاكو حيقا انت صوصنا كدب مركان نولادو محاكا الضمبية وحوري تما وحكا لك الضمين له ثم تموت بيولي تواد لمن انت سو نولل امركي لوgu siiye kadib natiijadu waad u dhiman doontaa markaas nabi ilaahi Muuse alayhi wa ala nabiy sallallahu wa sallam wuxuu yiri fal ana min qarib marba hadan dib ka dhiman doono hadaba hal idilo hadaba nafta laga qaado markaas rabbigi wuxuu codsaday inuu u dhaweeyo al-ard al-muqaddasa qiyaas dhagax la tuuri kara jirta ilaahu ard al-muqaddasa ii dhaweey buu markaas loo dhaweeyay meeshaasaana nafta laga qaado lagu aasay wuxuu nabigeenu yiri salawaatu rabbi wa salaamu alayhi xadiidka markuu sheegay kadib wallahi law anni indahu la araytukum qabrahu ila janib at-tariq inda al-kathib al-ahmar ilaahi baan ku dhaartay hadaan meesha joogi lahaa waxaan idin tusi lahaa qabrigiisa oo jidka garabkiisa ku yaala yaani bacaadka عص أو بعد كجذودنا أكتسا حديث كاسي مسلم أحمد باصو صاري وحنا تلماميا هدي بقولال سنة هي كميال سنة لقدايو نتيجتنا أخيرا أي نقول دون تؤون إن الدمانيس أما الضاه أما الدبلع أما الصهر مر أما هاللقوك هذه أما الدقني مجاد أما الدنيار ما هاللقوك أفسده نتيجة وامت حقيقة تسوي سوا وأنا حقيقة كسوي سوا إن أتكتر لك شيء مركب وباهنت مال أتكمل كرتنا ما شفته نبي أنه حكسوا صلوات ربي وسلام عليه حديث أحمد يا مسلم أي صار من حديث عبد الله بن مسعود ورسول الله صلى الله عليه وسلم وحول عبد الله بن مسعود أم حبيبة جوار الليلة هذا والنبي حاسكي صلوات ربي وسلام عليه أيا وحي كد عيستي دعاء وحيت اللهم متعني بزوجي رسول الله وبأبي سفيان وبأخي معاوية الإله واحد يقول راحيسا زوج كيغا أما نين كيغا نولوشيسا الرسول كالله إله إيدا إيا آباهي أبو سفيان إيا ولالك معاوية إله صدح ذا إيدا يقول راحي مركز رسولك صلى الله عليه وسلم مركو دعاء ذي مقلي قد سألت الله لآجال مضروبة وأيام معدودة وأرزاق مقسومة أم حبيبي واحد الله ويديستي أجل وقت له ننكاغنا أجلشيس وقت بلاده أبهانا وقت بوليه ولالكان وقت بوليه إي الرزق لقيبيي وإلهي تبارك وتعالى أكتيس قيبسا إيا مالمات ترسا وأن لبدلين لا يعجل شيئا منها قبل حله ولا يؤخر منها شيئا بعد حله شيء كمد أو حيابهاس مركو وقتيسو يماد وحيرنا للدبلغ مايو وقتيسي أون إيماننا وحير لغا صهر مرين مايو marka hawl mafruuq minha oo la dhameeyay oo waxba iska bedelayeen baad rabbiga weydiisanaysaa buu ku yiri walaw kunti sa'alti Allah an yu'idaki min 'adabin fi an-nar wa 'adabin fi al-qabr kana khayran laki wa afdal bu nabi sallallahu alayhi wasallam hadaad rabbiga weydiisan lahay
inuu kaa badbaadiyo cadaab naarta dhexdeeda iyo cadaab qabriga dhexdiisa ah taasaa kuu khayr badnaan lahayd kaagana fadli badnaan lahayd nabi sallallahu alayhi wasallam yaani wax weeyaan qaraabadaada iyo naftaada iyo adiguba waqti baad leedahay laakiin qodobka muhiimka waxa weeye waqtigaagu markuu yimaado in rabbiga tabaaraka wa tacaala dhibaatooyinka jira soo socda ka badbaadiyo oo qabri leh oo cadaab leh oo ka dambeeyo waxyaalaha waaweyn taasaa mudnayd buu nabi sallallahu alayhi wasallam in rabbiga weydiisato macnaheedu waxa weeyaan xadiidku wuxuu tilmaamayaa sida xadiiskii hore kale geeridu markay timaado wax baajin kara inuusan jirin wax dibdhigi karana inuusan jirin xataa ilbiriqsi wax kale iska dhaaf xataa sakan ma dibdhacayso walan yu'akhir Allahu nafsan idha jaa ajaluha wallahu khabiirun bima ta'malun nafna ilaahay dibdhigi maayo markay ajasheedu timaado ilaahayna tabaaraka wa ta'ala waxaad sameeynaysan wuu ogsoon yahay xogaal buu u yahay qul innal mawta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqiikum thumma turadduna ila 'aalimil ghaybi wash-shahada mawtka aad ka cararaysaan oo ka taxadaraysaan oo iska ilaalinaysaan oo meeshii lagu sheegay baad ka cararaysaan sababta aad tiraahdaan way keenaysaaba aadun ka wareegaysanaysaan mawtkii noocaasheed ka cararayseen waa mid idin la kulmayo waa ama carar mistaawe ama fako ama meel aamin raadso ama muxuu ahaayay taxadar ama guri gal midka aad ka cararaysaan meesha joogtaan buu idinku iimaanaya aynama takunu yudrikkum al-maut walaw kuntum fi burujin mushayyada hatta hadad dhisma adag gasho oo daaro iyo qusuur adag intaad gasho aad ka gashood kaga cararto meeshuu kuugu iimaanaya rabbiga tabaaraka wa taala waqtigu ku talagalay markuu yimaado meelina kuma fakin karto khalqina kuma fakin karo xaqiiqo marka laga maarmaan away inaad marto oo aad waajahado aad ku qasban tahay arinta iyada marka waxay keenaysaa xaaladan iyo degmadan hadda aan joogno sababta aan kaga tagi doono waa geerida laakiin waxa muhiim ah inaan tilmaano dadku dhimashada way wada marayaan muslimka gaalka munaafiqa faajirka saalixa diin laawaha kulli wax mid la marayo waa hal la maree dadku marka ay dhimanayaan oo nafta laga qaadayo intayna naftuba ka bixinba iyo qaabka nafta looga qaadayaba waa kala duwan yihiin annaga waxa noo muuqato oo dadkii wada dhimanayo qabriga loo sii wado la aasayo laakiin sida ay adduunka ugu kala duwan yihiin baynan marnaba meel laba isku mid noqon maayaan isku qaab loola mucaamaloon maayo dhibaatadan soo socota iyo khatarahan iyo waxyaalaha naxdinta leh iyo mawaaqifta halista ah isku si loola dhaqmi maayo ruux walba aqeedadiisi iyo amalkiisi ayaa keenayo xadidaya bifadlillaahi wa idnihi wa adlihi kolba sida loola dhaqmayo xadiis Ubadah ibn Samit ayaa nabigu salawaatu rabbi wa salaamu alayhi waxa uu leeyahay man ahabba liqaa Allah ahabba Allah liqaa'ah wa man kariha liqaa Allah kariha Allah liqaa'ah yani ruuxi ilaahay la kulankiisa jeclaada allana wuxuu jeclaadaa inuu la kulmo ruuxi jecel inuu rabbigii la kulmo rabbigiina wuxuu jecel yahay inuu la kulmo isaga ruuxi kahanayo dhibsanaya ilaahay la kulankiisana allana waa kahanaya inuu la kulmo hadalka markuu nabigu sallallahu alayhi wasallam ayaa ummul mu'miniin Aisha ayaa waxay tiri inna lanakrahu al-maut rasuulka ilaahay la kulankiisa ruuxa nacab ma geerida ruuxa nacab laga wada haday sidaas tahay kulligana geerida waa nacabna ee ma taasa laga wada markaas waxa uu nabigu sallallahu alayhi wasallam laysa dhalika saasma ilaahay la kulankiisa ruuxa nacab laga ma wada ruuxa geerida nacab ولكن المؤمن إذا حضره الموت بشر برضوان الله وكرامته لكن waxa weeye oo laga wada hadalka ruuxa muuminka ah markay geeridu ku soo xaadirto lagu yimaado
intaan weliba naftu ka dhicin oo jidhka ay naftii weli ku jirto ayaa waxaa loogu bishaaraynayaa ilaahay ridihiisa iyo karaamadiisa sidaan u tagi doona xadiidka baraa ibn caazib ee inoo soo socda waxaa la leeyahay ku bishaarayso ilaahay ridihiisa iyo karaamadiisa alla inuu ku karaamayn ku wanaajin ku maamuusi raallina kaa yahay arrintaa ku bishaaraysaa la leeyahay falaysa shay'un ahabba ilayhi mimma amaamahu halkaa markii bishaaradaa uu helo wax kasta wuxuu ugu jecel yahay waxa ka horeeya oo maxay ah in uu aakhira tago oo rabbigii la kulmo fa ahabba liqaa allah wa ahabba allah liqaahu sidaasuu marka ilaahay inuu la kulankiisa ku jeclaanaya allana ku jeclaanaya isaga inuu la kulmo waa goorma waa cinda al-ihtidaar marka lagu soo xaadiro bishaarada weynna la siiyo halkaas waxa ka dhalanaysa inuu jeclaysto rabbi la kulankiisa allana wuxuu jeclaanayaa inuu la kulmo wa innal kaafira idha hadar gaalka markii geeridu ku soo xaadirto hadarahu al-maut bushira bi'adab illahi wa 'uqubatihi sagoo naftuba ka dhicin baa waxa loogu bishaaraynaya ilaahay cadaabkiisa iyo 'uqubadiisa loogu bishaaraynaya wali naftii jirkay ku jirta markaas waxa lagu leeyahay waxaad ku bishaaraysataa ilaahay cadaabkiisa iyo 'uqubad daran inaad ilaahay agtiisa kala kulmayso markuu halka arintu marayso falaysa shay'un akraha ilayhi mimma amama wax jira wuxuu ugu karaahay iyo nacay badnaanaya waxa ka horeeyay qabri baa loo wadaa waa wuxuu ugu nacabi wala soo noolayn doonaa waa wuxuu ugu nacabi rabbigii hor istaagi doonaa waa wuxuu ugu nacabi halkaasuu marka dhibsanaya oo nacaya inuu horay u socdo ilaahay la kulmo tabaaraka wa taala fakariha liqaa allah wa kariha allah liqaa'ah saasa ilaahay la kulankiisa ku nacaya allana markaasuu isaguna inuu la kulmo ayuu karaahaysanay xadiidka bukhari muslim baa soo saaray wuxuuna tilmaamayaa dadku markay dhimanayaan dhimashadoodu isku mid ma aha inta inaga inooga muuqatana ma xaqaa'iq baa jirta qarsoon oo gaalka iyo mu'minku isku dhimasho ma aha munaafiqa iyo mukhliska mu'minka isku dhimasho ma aha faajirka iyo mutiicu isku dhimasho ma aha xaaladoodu waa kala gedisan tahay annaga kaliya waxa noo muuqata ruuxii oo nafta laga qaaday ama ha lagu silciyo ha sakaraado ama si kadaaba ha looga qaado ruuxii oo nafta laga qaaday kadibna qabriga la geeyo la aasay carrada lagu rogay intaas noo muuqata laakiin xaqaa'iq baa jirta sida nafta looga qaadayana waa kala duwan tahay xaaladooda wixii inta ka dambaysana aad bay u kala duwan tahay waxa tilmaamaya arinta ayada sidoo kale xadiidka Abu Qatada Bukhari Muslim baa soo saaray nabiga wuxuu yiri salawaatu rabbi wa salaam alayhi Abu Qatada wuxuu yiri murra alayhi bi janaza nabiga waxa la soo mariyay janaazo la wado ayaa la soo mariyay nabiga sallallahu alayhi wasallam markaas nabiga wuxuu yiri sallallahu alayhi wasallam mustarihun wa mustarahun minhu yani mid raaxaystay iyo mid laga raaxaystay يعني روح نستي iyo mid laga nastay markaas waxay dhaheen saxaabadu ya rasuulallah mal mustarih wal mustarah minhu midka nastay ee raaxaystanaya iyo midka laga nastay ee laga raaxaystay maxay kala yihiin noo sheeg markaas nabigu wuxuu sallallahu alayhi wasallam al abdul mu'minu yastarihu min nasab ad-dunya wa adaha ila rahmatillah والعبد الفاجر يستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب أدونك مؤمنك إلهي يقاني دريقي سنة كتوسنا وحو كنا سنة يا قيريدة كنا سنة يا وكرا حي سنة يا الدنيا ذا لبك هذه الدنيا ذا لبعت هذه الرفات كذي وحونا أن السنة يا إلهي نحريستيس يعني وحويان الدنيا ذا والبهار كذي قاتشة ذي أون كذي عبسي ذي دال كذي رفات كذي كذيت كذي الدنيا ذا لبعت هذه بكنا السنة ما نكاسو نسينا بالله بيها نحريس ربي تبارك وتعالى لقب الله باللحظة ذا البلغسك لقب الله إلى قبرك إلى وحي كدم بيه وحقليا النسين وقليا
sidaas daraadeed marnaba addoonka noocaasi haddii la yidhaahdo adduunkii ma kugu celinaa mayuu dhahaya war carruurtaadii iyo reerkaagii iyo ganacsigaagii iyo waxoogaagaagii aan dib kuugu celinno maya ma rabo kadeedii iyo rafaadkeedii maxaan ugu noqonaya yacni addoonkaasi geerida raaxay u tahay waa ku nasanaya waana ku raaxaysanaya amaa addoonka faajirka ah dembiilaha ah ilaahay tabaaraka wa tacaala ku kufriyey xadhiggiisa gooyey addoonka noocaas isaga waa laga nasanaya dhimashadiisaa lagu nasan oo waxaa ka nasanaya addoommadii bilaadda iyo dhulkaa ka nasanaya geedaha ka nasanaya xayawaanaadka iyo cayayaanka iyo waxa dhulka korkiisa ku socdo dhan baa dhibkiisa ka nasanaya leanna macaasidiiyo dunuubtuu ku jiray iyo wixii uu dadka u geysanayay iyo cuquubada ka dhalanaysay wuxuu samaynaya addoommada dhibaysay roob la'aan iyo colaad iyo dhibaatooyin oo isaga dunuubtiisa ku imaanaysa khalaa'iqduna wada dhibsanayeen oo dhibku wada gaadhayay taasaa laga nasanayaa yacni wax weeyaan yacni sida rabbigeen tabaaraka wa tacaala ku tilmaamay fircawn iyo qowmkiisii markii la halaagay famaa bakat calayhim alsamaa'u waalard samaduna uma ooyin dhulkuna uma ooyin samaduna uma ooyin dhulkuna uma ooyin waxaa laga fahmi bay leeyihiin dadka saalixiinta wan wanaagsan dhimashadooda inay samada iyo dhulka iyo ay saamaynayso laakiin kan waxa weeyaan ilaahay adduunka dhaafiyo waa xaaladaasi marka waxay tilmaamaysaa mar alla marka la dhimanayaba dadku waa kala baxayaan caqiidada iyo camalka iyo dhaqanka iyo akhlaaqda iyo suluugaaga ayaa ama xagga ku marinaya ama xagga ku marinaya qur-aanka kariimkii wuxuu tilmaamay ruuxa mu'minka dadka saalixiinta war wanaagsan markay naftu ka dhacayso malaa'ig baa u imaanaysa ina aladiina qaaluu rabbuna allahu uma istaqaamuu tatanazzalu calayhim almalaa'ika anlaa takhaafuu walaa taxzanuu waabshiruu biاljannati alatii kuntum tuucaduun dadka adduunka markay joogeen yidhi rabbiganne waa alle kadibna dariiqiisa ku toosay tawxiidka iyo taacada iyo khayrka iyo diinta ku toosay tatanazzalu calayhim almalaa'ika malaa'ig baa ku soo degaysa goorma culimmadu waxay yidhahdaan cinda alixtidaar marka geeridu ku timaado malaa'igtaasi way imaan xaaladda khatarta markuu ku jiro malaa'igtana way u imaan qabriga markuu galana malaa'igtaasi way u imaan marka la soo saarayo qabriga laga soo baxayana way u imaani waa xaaladaha ibni aadamku ugu walbahaar iyo cabsi badan markaasaa waxay ku leedahay malaa'igtaasi anlaa takhaafuu walaa taxzanuu ha baqina hana murgina waxa idin dhaafayna haga baqina wax soo socdana ha ka murgina ha cabsanina waabshiruu biاljannati alatii kuntum tuucaduun waxaad ku bishaaraysataan jannadii laydiin yaboohi jiray marka naftoon ka dhicin baa loo bishaaraynaa naxnu wliyaa'ukum fi lxayaati اdunya wafi اlaakhira adduunka annagaa idinla jirnay annagaa idiin hiilinaynay annagaa yani idin xignay haddana annagii baa idinla joognay marka waa baqina baa la leeyahay meeshaa marka waxaa ka muuqata geerida waa lagu kala tegsan yahay qaabka loo dhimanayana waa lagu kala tegsan yahay xaaladdaa iyo xaqiiqadaasi qaabka loo wajahayana dadku isku mid ma aha ee xaalado kala gedisan bay marayaan markii ilaahay tiisii intay timaaddo ruuxa nafta laga qaado ama si xun ha looga qaado faajir ha ahaado ama si wanaagsan ha looga qaado ruux mu'min oo ilaahay yaqaana ha ahaado maxaa xiga waxaa xigta degmada u dhaxaysa labadan degmo middan hadda aynu joogno iyo degmada rasmiga ee aakharo midda u dhaxaysa oo la yidhaahdo waa daarta ama nolosha barsakha la yidhaahdaa waana qabriga waxaa nabigeenna ka sugan salawaatu rabbi wasalaamu calayh xadiid uu soo saaray alimaamu tirmidi ibnu maajah iyo xaakim sheekh albaanina uu taxsiininayo min xadiidi cuhmaan ibni cafaan nebigu wuxuu yidhi sal lla alay wasalam ina alqabra walu manaasili alaakhira qabrigu aakharo manaasisheediiyo boosaskeeda booskii u horreeye waa aakharo boosas badan baa la maraya meelo badan baa la degaya oo haddana laga sii guuraya
oo socdaalkii hayaanku sii soconaya laakiin aakhira marka la yiraahdo adduunkana laga tago booska ugu horeeyay la degi doono waa qabriga wuxuu nabigu sallallahu alayhi wasallam fa in naja minhu fama ba'dahu aysaru minhu wa in lam yanju minhu fama ba'dahu ashaddu min qabriga dhibaatadiisa hadduu ruuxu ka badbaado inta ka dambaysana waa ka sii fududahay hadduu qabriga dhibkiisa ka badbaadi waayana iyo imtixaankiisa iyo ciqaabtiisana wixii ka dambeeya waa ka sii daran wixii ka dambeeya waa ka sii daran haddii qabrigaasi ilaahi tabaaraka wa tacaala ku fududeeyo oo xaaladiisa lagu adkaynin oo imtixaankiisa rabbi ku waafajiyo oo qabrigaasi aad dhibkiisa ka gudubto macnaheedu waxa weeye wixii ka dambeeyana waa ka sii sahlan wal akshu bil aks qabrigu marka meel sahlan ma حديث أبي هريرة النبي وحكوله صلى الله عليه وسلم ترمذي بن ماجه حاكم بصوصار سيدو كله شغل ماننا وتحسيننا يا والنبي صلى الله عليه وسلم ما رأيت منظرا قط إلا والقبر أفظع منه وليجي ما أركب بقول منظر موقال وليجي ما أركب بقول إلا هدوء شره قبرك وحك فالح المجر وحك أرجع بدن أو كذبات بدن أو كحلسن قبرك ما أركب النبي صلوات ربي وسلام عليه حديث اسمه سونة المامية دقمدا إنوصو صعته أو قبرك حال كذا إيضا والقوك لقدسيه markii la dhimanayay dadku say u kala duwanaayeen oo ninna looga farxinayo loogu bishaareynay midna looga nixinayo loo kadeeyo loo ciqaabay oo ciqaab loogu bishaareynay sidoo kale qabrigii hadii la tago degmadaasi la tagana yaani waxa weey waa la kala duwanaanaya waxa lagu kala duwanaanaya ala asaas ruuxu wuxuu ahaan jiray amalkiisa aqeedadiisa dariiqu hay akhlaaqdiisa suluugiisa ayaa kala duwaya dadka xadiisu baraa ibn aazib oo caana xadiidka dheer imaam ahmed iyo qeyrka ay soo saareen ayaa arinta tafaasiil fara badan ka bixinay wuxuu leeyahay al-baraa ibn aazib radiyallahu ta'ala anhu wa ardaa nabiga ayaan raacanay buu sallallahu alayhi wasallam fi janazati rajul min al-ansar min ree ansaareed janaazadiis askiis ayaa nabiga u raacanay buu sallallahu alayhi wasallam فانتهينا إلى القبر ولما يلحد قبر جيبانو تغني بو او غادني اسغو ولي لحدكي لو سمينين وميش ميدك لا غليو فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلسنا حوله نبي وا فريستي انغونا النبي هريري سان فريسناي بو وكأن على رؤوسنا الطير markaan fadhino waxaad mudaaburi inay madaxyadanada shimbir saaran tahay yaani sida loo hoganayo loo khushuucsan yahay isla dhaqaajin ma jirto waa la baqaya ruux walba xaaladana iyo xaqiiqadan ayaa cabsi badan ku haysa wa fi yadihi uudun yankutu fil ardi farafa ra'sa nabiga sallallahu alayhi wasallam qoribu marka haysta qoribu marka dhulka ku gargaraacaya qoriyaro gacantiisa ku jira ayuu dhulka ku kakawinaya ku gargaraacaya nabiga sallallahu alayhi wasallam kadibna abaar markuu fooraray ayuu nabigu madaxa kor u qaaday markaas wuxuu yiri istaciidu billahi min adaabi alqabr istaciidu billahi min adaabi alqabr istaciidu billahi min adaabi alqabr ilaahi waxaad ka magan gashaan qabriga cadaabkiisa saddex goor buu nabigu kaleey sallallahu alayhi wasallam ama laba goor markaas uu qisa dheer nabigu galay sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه ملائكة من السماء بيض الوجوه أدونك مؤمن كأي صالح ونكسنا مركو الدنيا ذا كسي لمانا ير آخرنا كسي تشيدو الدنيا ذا وأقر لماتي والوصو حاضر قريدي باتمت آخرنا وكسي تشيدا يو وأصعدا ملائك با مركا كسو دقيس حق السرية الصمدي ملائكتاسي كإيمان ملائكتاسي وملائك وجيجيدو عسعسها وملائك وجيعدد كأن وجوههم الشمس واحد مدى ملائكتا وجيديدا قرح باد مدى قرح ذا سيدي يقول دلاليا معهم كفن من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة حتى يجلسوا منه مد البصر ملائكتاسي waxay wadaan kafan jannada laga keenay waxa kale wadaan cadar
waxyaabaha meydka lagu udgiyo oo isagana jannada laga keenay say u socdaan baa waxay fadhiisanayaan meel ilqabad u jirta meydka ruuxa meel u jirta ishiisu intuu qaban karo meel jirta ayay u fadhiisanayaan halka markay fadhiistaan waa malaa'igtii wada socotay thumma yaji'u malakul maut alayhi salam hatta yajlisa 'inda ra'sihi malakul maut waa malaga nafta loogu talagalay inuu qaade isagu waa soo soconaya markaasuu meydka ama ruuxa madaxiisu soo fadhiisanaya markaas wuxuu leeyahay ayyatuha an-nafsu at-tayyibah ukhruji ila maghfiratin min Allah wa ridwan naftan wanaagsanay waa muuminki soo bax jidka ka soo bax waxaad u soo baxdaa ilaahay dambi dhaafkiisa iyo ridihiisa rabbi raalika wixii khalad ka dhacayna ku dhaafay naxariis iyo janno taa u soo bax buule soo bax فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء فيأخذها نفتي هديب اللي يدير إلهي الرضيه سيا جنية خير بالغو وضع شركة وحي أغسو بحيسا سيئات وفضت سيدا بالكن سبرارك اللي يدهدو وهرق عنها يبيها يلغو شبتو سيدا السبرارك مركب بيها لغا شبايو afkiisa si fudud ay biyuhu uga soo baxaan oo kale sidaas oo kale jirka uga soo dareeraysa oo tartiib ay u soo baxaysa nafti markaasuu qabanaya oo qaadaya malakul maut markuu gacanta ku dhigo lam yad'uha fi yadihi tarfata 'aynin hatta ya'khuduha malaa'ikti kale xagga fadhiday ayaa markiiba gacantiisa kala boodayo nafti ka qaadanaya ilbiriqsi ayay gacantooda ku wareegaysa fayaj'alunaha fi dhalika al-kafan nafti say u wadaan waxay marka gelinayaan kafantii jannada laga keenay adarkii udgoona ee jannada laga keenayna way marmarinayaan way ku udginayaan markaas waxa ka soo baxaya ka atyab nafhati miskin wujidat ala wajhi al-ard miski dhulka korkiisa jooga miski dhulka korkiisa yaala ka ugu udgoon araftiisoo kala ka soo baxaysa aad buu udgaya fayas'aduna biha markaasay kaxaynayaan korbay la aadayaan fala yamurruna biha ala mala'in min al-mala'ikati illa qalu ma hadha ar-ruhu at-tayyib malaa'ikta korjirta koox malaa'iga markay sii mariyaan naftiisaba waxay malaa'iktaasi isweydiinaysaa war ruuxdan iyo naftan udgoon ee qiimaha badan yu aha waa kuma markaas waxay leeyihiin fulan ibn fulan bi ahsani asma'ihi allati kanu yusammunahu biha fi dunya yani waa hebelkiina hebel aha magaca hatta ay u sheegayaan waa magacyadiisi adduunka ki ugu fiicna kaasay ay ku sheegan waa hebelkiina hebel ah say u wadaan ayaa waxay gaarsiinayaan marka samada sokay la tagayaan halka markay geeyaan waxay dalbayaan marka samada in la furo فيستفتحون له فيفتح له أنا لغا فري لي سمدي با لغا فريا فيشيعه من كل سماء مقربوها إلى السماء التي تليها سماء والبمركو غارو ملائكة السماء جوجتاي كهري ميسه ويسي سغوتيني إلى السماء كحيكتا او غارو ولا سي سغوتينيا ولا سي راعيا السماء كحيكتا marka la gaarsiyo haddana malaa'ikta samadaas joogta haddana si sagootinayso si raacaysa ilaa ay ku simaan samada kale taana malaa'iktii baa si sagootinayso si raacaysa ilaa samada toddobaad la geeyo markaas rabbi wuxuu leeyahay tabaaraka wa taala uktubu kitaaba 'abdi fi 'illiyin adoonkayga kitaabkiisa waxaad ku qortaan 'illiyin ku qora waa kitaab meel sare yaala oo dadka wanaagsan magacyadooda lagu qoriyo xaalkooda halka magaciisa iyo kitaabkiisa ku qora wa aa'iduhu ila al-ard dulkana u celiya taad halka ku qortaan dulkii uu ka yimid ku celiya waxa yeelay fa inni minha khalaqtuhum wa fiha u'iiduhum wa minha ukhrijuhum taratan ukhra holay baan u xukumay bu rabbi tabaaraka wa ta'ala in aan ibn aadamka dulka ka abuuro dulkana aan ku celiyo isagana aan ka soo saaro mar kale markaas waxa la soo celinaya ruuxdiisii baa la soo celinaya
jidhkii baa dib loogu soo celinayaa oo qabriga dhexdiisa yaal oo la aasay markaasaa meesha loo imaanaya laba malag baa u imaanaya munkar iyo nakiir ayaa marka u imaanaya markaasaa la soo fadhiisinaya intaasoo dhan waxay dhacaysaa waqti aad u kooban bay dhacaysaa dadka kaxeeyey ee qabriga geliyey ee aasay intaynan ka dhaqaaqin oo weli ay kor joogaan shanqadhooda uu maqlayo ayaa naftii lagu soo celinaya xagee laga soo celiyey samada toddobaad baa laga soo celiyey naftii baa la soo gelinaya waa la soo fadhiisinaya markaasaa waxay leeyihiin malaa'igtaasi imtixaan adag baa marka la marinaya waxay leeyihiin man rabbuka yaa rabbi ku ahayd caabudi jirta ma sanam ma geed ma wadaad dhintay ma dhagax ma qorax ma dayax yaad caabudi jirtood muxuu ahaay rabbi ku ah markaasuu wuxuu leeyahay rabbi allah rabbigay waa alle adduunka rabbi kale oon caabudo ma jirin isaga keligii baan caabudi jiray waxay ku leeyihiin maa diinuka diintaadu maxay ahayd maxaa dhaqan kuu ahaa xaggeed raacsanayd wuxuu leeyahay diini alislaam diintaydu islaamnimo wey laa yahuudiyata walaa nasraaniya walaa majuusiya yahuudi ma ahayn nasraani ma ahayn majuusi ma ahayn diin laawe ma ahayn ee diintaydu islaamnimay ahayd iyadaasaan haystay markaasaa waxay leeyihiin su'aasha saddexaad maa haada alrajulu aladii bucita fiikum ninkan dhexdiinna la soo saaree laydiin soo diray muxuu yahay waa nebi moxamed sal lay slam markaasuu wuxuu leeyahay huwa rasuulullah waa rasuulka ilaahay wey adigaa rabbi oo noo soo diray rabbigannaa noo soo diray inuuna soo gaadhsiiyo farriinta rabbi tabaaraka wa tacaala markaasaa waxay leeyihiin intaa la ysaga hadhi maaye wamaa cilmuka aqoontaadu maxay ahayd keliya war rabbigee waa alle diintayduna waa islaam kanina waa rasuul alle laysaga hadhi maayo maa cilmuka laleeyahay aqoontaadiiyo cilmigaagu muxuu ahaa markaasuu wuxuu leeyahay qara'tu kitaab allahi fa aamantu bih wasadaqtu ilaahay kitaabkiisaan akhriyey waan rumeeyey halkaasaa cilmigaygu wakaa xaggeed ka heshay kitaab rabbiyoo soo degay baan akhriyoon bartay isagaanan ka qaato cilmigaygu wakaa su'aalahaasi jawaabahooda saxdaa baa ilaahay waafajiyey tabaaraka wa tacaala haddaan rabbi waafajin lahaynna ma keeni kareen rabbi baa sugaya yuthabbitu allahu aladiina aamanuu bilqowli athaabit fi alxayaati addunya wa fi alaakhira dadka mu'miniinta ilaahay baa sugaya xaaladdu xaalad sahlan ma aha waa qabri waa meel aadan aqoon jirin cidda su'aalaha ku weydiinaysaa cidaad garanaysa ma aha xaaladda lagugu weydiinayo waa xaalad adag argagax leh xaaladdaasoo kale xataa magacaa haddii lagu yidhaah yaa laga yaabaa inaad gefto magacaaga allah tabaaraka wa tacaala baase waafajinaya oo waa la sugayaa oo waa loo fududaynayaa jawaabaha inuu saa u bixiyo markii intaa uu ka jawaabo fayunaadii munaadin fi الsamaa an sadaqa cabdii faafrishuuhu min aljannati waalbisuuhu min aljanna kor baa laga dhawaaqaya waxaa la leeyahay addoonkaygu run buu sheegay wixii loo soo dirayna waa rumeeyey ee gogol jannada uga keena labisna jannada uga keena waftaxuu lahu baaban ila janna iridna jannada uga fura qabrigiisii wey gogosha uu ku jiifo waa gogol jannada ka timid dharka uu qabo waa dharkii jannada dariishad iyo albaabbaa jannadii uga furanoo meeshaasuu ka daawanayaayoo muxuu ahaaye carafteediiyo udaygeedu uga socdaa faya'tiihi min rawxiha wa tiibiha wayufsaxu lahu fii qabrihi madda basarihi halkaasaa marka saxansaxada iyo udgoonka iyo risiqa iyo wanaagga jannada iyo allah halkaa uga soconaya qabrigaa loo waasicinayaa inta ay ili qabato intay ishu qabato ayaa qabriga la kala fidinaya oo loo waasicinaya addoonkaasi halkaa markuu joogo
waxaa u imaanaya ya'tiihi rajulun xasanu lwajhi xasanu thiyaabi tayyib riix nin baa u imaanaya waa nin weji quruxsan waa nin dhar quruxsan waa nin udgoon ruux udgoon qurux badan dhar qurux badan ku labisan ayaa u imaanaya markaasaa wuxuu ku leeyahay abshir biladii yasuruka hada yowmuka aladii kunta tuucad waxaad ku bishaaraysataa wax aad ku faraxdo maalinkii lagu yaboohi jireed sugaysay waata maanta wey markaasaa wuxuu leeyahay man anta war kumaa tahay adugu fawajhuka alwajhu yaji bilkhayr wejigaagu weji khayrgeena khayr wadaad u egto weji khayr wadu wejigaagu u egyahay kumaad ahayd markaasuu wuxuu leeyahay ana camaluka asaalix camalkaagii wanaagsanaa baan ahay salaadaadii soonkaagii xajkaagii khayrkaagii sadaqadaadii oo ruux qurux badan loo soo ekeysiyey dhar qurux badan loo soo xidhay aad u udgahaya camalkaagii baan ahay addoonkaasi markaasaa wuxuu leeyahay rabbi aqim الsaaca xataa arjica ilaa ahlii wamaalii rabbiyow qiyaamada dadaji ilaahayow qiyaamada istaaji si aan ugu noqdo ehelkaygii iyo xoolahaygii waa aakharo xaasaskaygii iyo xoolahaygii iyo deegaankaygii jannada ilaahow si aan u tago ilaahu qiyaamada dadaji buu leey ilaan hawl nicmadan uu qabriga ku haysto wax ka qiimo badan baa u muuqda sidaasuu marka meeshaa ku raaxaysanaya waxaa la leeyahay waxaa tahay addoon wanaagsane raaxayso sida arooska u seexdoo kale isaga seexo iska naso halkaasaa loo nuurinaya wanaaggaasuu ku noolaanaya ruuxdiisii iyo jidhkiisana xidhiidh baa ka dhaxaynaya addoonkaasi waa kaa markuu dhimanayayna si tartiibaa nafta looga siibay intuusan dhibannina bishaaraa la siiyey markuu godka soo galayna yacni waxa weye raaxadaa iyo wanaaggaasaa lala kulmiyey degmadaasi wuxuu ku qaadanayaa isagoo noloshiisa barsakha iyo qabriga degmadaasi nolosha uu nool yahay ay ka qiimo badan tahay midii adduunyada uu ku noolaa wuxuu nabigu yidhi sal lla alay wasalam waina alcabda alkaafira ida kana fi inqiطaacin min addunya aw iqbaalin min alaakhira addoonka gaalka ee faajirkae xun markii adduunyada uu ka sii jeedsado oo laga wado aakharana uu sii jeedo isagana malaa'ig baa ku soo degaysa suudu lwujuuh waa malaa'ig wejiye madmadow kii horena malaa'ig wejiye cadcadoo quruxsan baa u timid kanse waxaa u imaanaysa malaa'ig wejiye madmadow macahum lmasuux waxay wadaan oo malaa'igtaasi ay wadaan masuux waxaa la yidhaahdaa yacni dhogorta mara laga sameeyo oo qallafsan oo loogu talagalo jidhka in lagu adkeeyo jidhka yacni waxa weeye duraysa ama dhibaato u geysanaysa oo aan lahayn dabacsanaan iyo naxariis midna lahayn mara noocaasay wadaan markaasaa waxay fadhiisanayaan meel u jirta ilqabad malakulmowd baa soo hormaraya oo u imaanaya madaxiisa agtiisuu fadhiisanaya markaasuu wuxuu leeyahay ayatuha annafsu alkhabiiثa ukhrujii ilaa sakhatin min allahi waghadab ma naftan xunay soo bax oo waxaad u soo baxdaa ilaahay cadhadiisa rabbi kuu cadhaysan iyo cuquubadiisa iyo cadaabkiisa u soo bax fatafaraquu fii jasadihi markaasay waxay ku kala cararaysaa jidhkiisa jidhkay kala gelaysaa xubin bay u qaadaysaa inay fakatay isku dayaysa ama la fakan karaa fayantazicuha kama yuntazacu asafuudu min asuufi almabluul markaasuu intuu qabtuu soo dhufanaya oo xoog kaga soo saaraya sida birta afaf kale suufka qoyan looga dhex saaroo kale safuudka waxaa la yidhaahdaa waa birta afafka godan leh ee inta badan hilibka marka la dubayo hilibka la sursuro taasaa safuud la yidhaahdaa birta noocaasa oo suuf la qooyay ku dhex jirta sida looga siibo oo kale saasoo kaluu nafta uga soo siibaya bimacnaa lagama siibi karo
yani suufkii waa soo kala raacaya birta noocaasa kama hadhayo xoog in la isticmaalo mooye si kale loogama soo saari karo saasuu marka naftii u soo saaraya u soo dhufanaya markaasuu qaadaya sidaadii gacantiisa ay u gashana malaa'igtii kala imaanayso markaba gacantiisa laga dafaya ilbiriqsiba waa laga qaadaya markaasaa waxa la dhex gelinayaa maradii dhogorta ahayd ee qallafsanayd ayay dhex gelinayaan waxaa ka soo baxaya markaa qarmuun bakhti dhulka korkiisa ku bakhtiya midka ugu qarmuun urkiisoo kale ka soo baxay markaasay la tagayaanoo xagga saray la aadayaan samaday la aadayaan ma marayaan koox malaa'igta ka mida markay sii maraan malaa'igtaasi waxay leedahay maa haada aruuxu alkhabiis war naftan xun ee uraysa maxay ahayd qarmuunka markaasaa waxay leeyihiin fulaan ibnu fulaan biaqbaxi asmaa'ihi waa hebelkiina hebel habaarqabihii ina hebel ahawa magacyadii adduunka lagu magacaabi jiray kii ugu xumaa ayay ku magacaabayaan ilaa ay say u wadaan bay samadan soka geynayaan samada markay geeyaan ayay marka dalbayaan in laga furo ana laga furo falaa yuftaxu lahum loo furi maayo yaad wadaan hebel ma hebel baa sama loo furi maayo furi mayna la leeyahay raalli aad laga furi maayo markaasaa nabigu wuxuu akhriyay salawaatu rabbi wasalaamu calayh laa tufattaxu lahum abwaabu as-samaa walaa yadkhuluuna aljannata xataa yalija aljamalu fii sammi alkhiyaat jannada iridaheeda loo furi maayo jannadana geli maayaan waxaan u jeedaa samada iridaheeda loo furi maayo jannadana geli maayaan ilaa neefka geelihii uu ka galo irbadda duleelkeeda irbadda dharka lagu tasho duleelkeeda yarka ah neef geela ma geli karo ilaa neef geela uu irbadda duleelkeeda galo jannana geli maayaan samadana loo furi maayo maxaa laga wadaa bimacnaa marnaba ma dhacaysa waa markaasaa haddii samadii in la geliyo loo diiday naftan xunta ah maxaa lagu samaynaya marka rabbi wuxuu leeyahay tabaaraka wa tacaala uktubuu kitaabahu fii sijiin fi lardi sufla kitaabkiisa waxaad ku qortaan sijiin ku qora oo dhulka ugu hooseeya agtii meeshaa yaal halkaa magaciisa geeya ayib halkaa markii magaciisa lagu qorana fatutraxu ruuxuhu tarxan markaasaa naftiisa la soo tuuraya meeshaasaa laga soo halgaadaya tartiib sida loo soo wado meesha la keeni maayo waa la soo tuuri nabigu warka wuxuu akhriyay salawaatu rabbi wasalaamu calayh meeshaana waman yushrik billaah fakaannamaa khara min as-samaa fatakhtafuhu at-tayru aw tahwi bihi ar-riixu fii makaanin saxiix ciddii markuu adduunka joogay rabbigii shirki u sameeyey oo wixii ilaahay gooni u ahaa tabaaraka wa tacaala iyo xaqiisii aan gudanin wuxuu la mid yahay fakaannamaa khara min as-samaa wuxuu la mid yahay sidii ruux samada ka soo hoobtay oo kale ka soo dhacay fatakhtafuhu at-tayr oo haadu ay hilibkiisa kala dafayso aw tahwi bihi ar-riixu fii makaanin saxiiq ama dabayshu ay ku tuurayso meel fog uusan ka soo laaban karin bimacnaa waxa weeye naftaas xunta ah ee meesha laga soo halgaaday ama laga soo tuuray wey faducaadu ruuxuhu fii jasadihi jidhkiisiiyo qabriga ku jira oon wali laga kortegin ayaa marka naftii lagu soo celinaya labada malag baa u imaanaya markaasay soo fadhiisiinayaan markaasaa su'aalihii lagu bilaabayaa imtixaankii man rabbuk yaa rabbi kuu ahaa markaasaa wuxuu leeyahay laa adri afku kala qaadaya ma garanayo markaasaa la garaacaya oo la tumaya hana ogaanin hana baranin baa la leeyahay su'aashii labaad bay weydiinayaan maa diinuka war maxaa diin ku ahayd afku kala qaadaya laa adri haddana way tumayaan way garaacayaan markaasaa waxaa la leeyahay maa haada alrajulu aladii bucita fiikum ninkan dhexdiinna la soo saaray muxuu ahaa afku kala qaadaya ma garanayo waa la tumaya waa la garaacaya madax iyo minjaal laga tumaya markaasaa waxaa dhawaaqaya samadaa laga dhawaaqaya wuxuu rabbi leeyahay addoonkaygu waa i beeniyey beenna waa ku noolaa iyo waxaan waxba ka jirin fa afrishuu lahu min annaar naarta gogol uga keena
وافتحوا له بابا إلى النار نارتنا إريد أغفر الكاس نارته هنفقه إيا كليل كذا إيا قاعدة الكاس أغا إيمانيا مركاسو ميشا كوغبانيا قبرك لغو عريريا حتى تختلف فيه أضلاعه بن صلى الله عليه وسلم إلى فيره سو إصطافان oo qabriga inta la isu keeno baa feeraha midigta iyo kuwa bidixda baa isdaba maraya qabrigana saasa loogu xidhiya waxa uu iimaanaya ruux foolxun oo dhar foolxun qaba oo urahaya markaas wuxuu ku leeyahay bishaarayso wax ku xumeeya oo ku dhiba maanta ku bishaarayso maalinkii lagu yaboohi jiray waa maanta markaas uu leeyahay warkumaad ahayd mananta warkumaad ahayd فوجهك الوجه يجي بالشر وجهك وجه شر وضع بعض وقت بلايا كام وقتين محاضة هيدنيو مركز وحولي هاي أنا عملك الخبيث عمل كاقي حمابة أنا دين حمدي بنتي قال لي مذي خيانة ذي منافقينتي زينة ذي حمانتا ذيوي عمل كاقي بانا هاي halkaasuu marka la baryaya isagaaba dhibku ugu filanba urkiisa iyo qarmuunkiisa iyo foolxumadiisa markaas wuxuu leeyahay rabbi la tuqim as-saa'a rabbi yow qiyaamada haridin rabbi yow qiyaamada ha istaajin rabbi yow ukaadi muxuu leeyahay ukaadi alashan wuxuu og yahay tan haduu ka gudbo tana farda kula carar ah cadaabkan qabriga ku haysta iyo dhibaatadan iyo ciriiriga iyo mugdiga iyo garaacista iyo uquubadan midda ka dambaysay u muuqatay naartii oo meesha uga muuqata baa ka sii daran markaasuu leeyahay rabbi oo tana roone rabbi oo qiyaamada u kaadiyo iga dibdhig xaaladda qabriga lagu nool yahay waa mid ama waa taa hore ama waa tan dambe waa sir iyo macluumo rabbiga callaamul ghuyub kaaba ina siinaya sina laguma ogaan karo ابن آدم كا وحو ينوشي كرما وحن ددال كو كيني كرنما وحن فلسفات كو كيني كرنما وحن مسكحدون كشقيسين كو كيني كرنما لكن ومعلومات هي حقائق ربنا تبارك وتعالى ينوشي رسولكم صلوات ربي وسلام عليه وصائن اوغو فسري حديث كاسي waxa soo saaray Ahmad Abu Dawud ibn Khuzaimah Bayhaqi fi Shu'ab Diya fi al-Mukhtara wana hadith sahih wey hadithkaas tafaasiil farabadan wuxuu ka bixiyay marka qabriga marka la joogo degmada iyada maxaa ka jira degmadaasi labada xaaladood mid baa ka jira ama dadku waa cadaaban yihiin oo waa dhiban yihiin ama dadku waa nasan yihiin oo way raaxaysanayaan labada mid waa degmadaasi meeshaas wali socdaalkii safartii ma dhamaanin waa degmo habeen dhaxwa marka hayaanka la yaho la socdo meel baa la degaa waa lagu yar nastaa kadibna waa laga sii guuraa degmadaasi la joogi maayo iyadana waa laga sii guuri doonaa sidee looga guuri doonaa Abu Hurayra wuxuu soo saaray Abu Hurayra wuxuu warinayaa xadiis Muslim iyo Nasa'i iyo Bukhari ay soo saareen ayaa Abu Hurayra laga warinaya wuxuu Abu Hurayra rasuulku wuxuu sallallahu alayhi wasallam ما بين النفختين 40 لبدا افوفيس afartan baa u dhaxaysa labada goore buunka la afuufayo ee midna adduunka wixii la abnaa lagu gabagabaynayo lagu dhamaynayo lagu baabi'inayo midna lagu soo noolaynayo wixii dhintay labada afuufis ee buunka la afuufayo afartan baa u dhaxay markaas waxa la yiraahdaa Abu Hurayra 40 يوما ما أفرتم بريبا أفرتم باتريا معاد كودا أفرتك ما أفرتم بريبا وحيولي أبيت وان ديدي طيب ما 40 شهرا با ما أفرتم بلود با ديدي بودي كما جوابه ما أفرتم سنة ديدي بودي بمعنى ما قرنا يوم مددا إيادا كدي محاد عيا ثم ينزل من السماء ماء xilligii isa soo saaridee qubuurta laga soo bixi la marka la gaaro samada ayaa roob ka iimaanaya alla soo dejinay fayambutuna kama yambutul baqlu markaasay dadkii qubuurta waxay uga soo baxayaan sidii nagaarka ama
yani dalaga waxyaalaha dhulka ka soo baxa siduu u soo baxo oo kaleeto geedka yarka curdanka siduu uga soo baxo dhulka ayuu uga soo baxaya fahano macnuhu waxa weey roobkaasi markuu doo dhulku galaya wuxuu u tagayaa qubuurtii iyo meelihii dadku ku jireen buu gaadhaya biyahaasi markay gaadhaan meesha ayaa waxa soo noolaanaya wax alla wixii dhintay halka ku jiray dib buu isugu soo noqonaya wala soo ururin kadibna wuxuu u soo baxayaa sida geed dhulka ka soo baxay oo kaleeto wuxuu nabigu sallallahu alayhi wasallam وليس من الإنسان شيء إلا يبلى إلا عظما واحدا هو عجب الذنب ابن آدم كان لما أنت شركي سوى بابايا عرض عنيس إلا هل شيء موي هلف ولفت الليلة هذا دبن عست سلسلة دائرة دورك لفت وقدم بيسة لفتاس مويانة شركة انتي سكال عرض عنيس لكن لفتاسي أيضا باقي بأخانه وحنبي صلى الله عليه وسلم ومنه يركب الخلق يوم القيامة لفتاسا دب ابن آدم كا لو تركيبين تيسي أبوريس تيسي إساساري ديسة لفتاسا مرلباد لقى سعرين دونا مركا روب كاسي مركو يمادو دب الله صبيح دونا وأذيقي هبلها إيا أذيقي هبلها هيد أو مدك مقنايد oo ku jiray qabri iyo nolol ilaahay xaalkeeda og yahay hadana waan xaalad kale cusub waa seed ku soo baxaysa marka sidaas ku soo bixi yaa kula socdo qaraabo ma jirto oo ehel ma jiro oo caruuri ma jirto oo xoolo ma jira oo kuraas iyo jagooyin ma jiraan oo dhul aad garanaysa ma oo dabeecadda taqaanay ma xaal totally ba ka gadisan kii aad aqoon jirta lagu soo saaray waxa nabigeenu yiri salaatu rabbi wasalaam alayhi hadithu aisha wa rasuulku sallallahu alayhi wasallam yuhsharu an-nas yawm al-qiyamati hufatan uratan ghurla dadka waa la soo kulmin maalinta qiyaamada ayaga oo kabala oo qaqaawan oo wada buuriye qab ah xubnihi laga jaray kulli waa ku yaalaan timihi waa ku baxeen cidihi waa ku baxeen kaba ma qabo waa qaawan yahay waa buuriye qab saasa dadka lagu wada keenaya waa wada qaawan عائشة رضي الله عنها وحيت الرسول كمركو حديث كاشيغي النساء والرجال جميعا ينظر بعضهم إلى بعض يا رسول الله ورسولك إلهي وميشا إيضا ولو وذا قاوية رقي الضمر كينا كو إذليهين سو إسفيرفيرين مايا سو ليسداون مايو ورقاز النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة الأمر أشد من أن ينظر بعضهم إلى بعض عائشة أرنتوا كعلستهي حالكنا وكأذقي هاي إن ليس داوضو روح داوانا يا هذا دركت وروح كان شاء الله دون روح كان شاء الله دون لكن حالته هذي أتكاتو إيش هذا وحكى لما قوانا يسوع سيد كوبت بادابات كهل صومه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه روح كستو ضدك كم ذا مالك وحكو في لمباهست مركا dadka le hawlahooda iyo cawradooda iyo inaad u gudubto daawataay hawl taalaba ma maalinka isaga saasuu nabigu yiri salaatu rabbi wa salaam alayhi markaas nabigu sallallahu alayhi wasallam wuxuu akhriyay kama bada'na awwal khalqin nu'iduhu wa'dan alayna inna kunna fa'ilin abuuristoodii hore sidaan ku bilownay baan ku soo celinay buu Allah yiri tabaaraka wa ta'ala xadiidkaasi waxa soo saaray al-Imam Muslim ibn Majah iyo Nasa'i iyo Tirmidhi أحمد وحسيادي حديث كلا عبد الله بن أنيس لقى ورنيو بهما ضدك مركز صوب حيان صفات قضاء وحكم إذا ضد بهمي أول وحلو يدي بهمي قمحوية ليس معهم شيء وحمل موتان كوريها لسان حولها التبعين وحي كيت سنة قرابة ضودي وحل الصعود مجر كلي قوة وحي لم يتهي أدون كمركز إيماني السي أدو كلي قابات أدو قاوم باتمد أدو مرضي حتى لو قوان لها أنا ودنين باتم أدو بوريا قبات أدو كبالا أنا واتم سيداد أدونك كتمد
baad nolosha aakharana qabriga intaad ka soo kacdo ku imaan doontaa sida rabbigeen tabaaraka wa tacaala aayadda ku tilmaamay walaqad ji'tumuuna furaada kama khalaqnaakum awwala marra وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وأنوتي ما دينبو رب الله تبارك وتعالى إذنكم مد سيدان إذن أبو النمركي وقوه الرئيسيبا waxaad ka soo tagteen oo gadaashiina kaga timaadeen wax kastoon idin siinay dhamaan wixii adduunka lagu siiyay hal xabba kama wadat waxaad shaqaysato amalkaagu baa kula socda sidaasina waa sida la soo baxayo marka la soo baxayo qubuurta laga imaanayo degmada rasmiga loo socdo halkaas ay imaanaysa marka la soo istaago la yimaado maca halka yaal degmadii rasmiga ahayd way horta midda loo socday geediga loo yahay waa taa iyada ah xaalada adag ba iyaduna leedahay rabbiga tabaaraka wa tacaala ayaa la kulmi shadaa'id iyo hawla aan sahlaneyn iyo ahwaal ba meeshaana taala la iska daba hadhi maayo ilaahayga rasmiga ah ama janno bifadlilaahi aad ku tagto ama naar bi'adlilaahi aad ku tagto la iska daba hadhi maayo inta uun xaalad ka gudub oo tu kale u gudub waa meesha marka la tago ban hal meelo banaana dadka la isugu keenaya iyagoo wada qaqaawan banaanka isaga ah waa meel la iska arkayo oo dhawaaq la iska maqlayo oo iyadoo dhanba kooban intuu aadam dhalay oo dhanba meesha lagu soo xashrinaya sida nabigeenu sheegay salawaatu rabbi wa salaam alayhi waxa loo soo dhaweynayaa qoraxdii baa waxa loo keenayaa qiyaas yar qadra miil qiyaas madaxooda u dhow baa la soo saaraya waa qoraxdan hadda iyadoo inoo jirta intaasoo bilyan oo qiyaasta dawga ah halkan inagoo joogna aan la joogi laana ayaa madaxa la soo saaraya markaasay dadkii dhididayaan dhididkoodii baa dhulka galaya 70 dhudhun buu dhulka galaya markaasuu dib u soo noqonaya ruux walba marka intii dambigiisu dhanaa ayuu dhididkaas kululi u qabanaya dadka qaarkood sida nabigu sheegay sallallahu alayhi wasallam minhum man yablughu araquhu qadamayhi dadka qaarkood wuxuu u qabanaya u gaaraya gomada aanqowga korkiisa dadka qaarkoodna wuxuu u gaaraya ilaa nisfi saaq dhudhunka dhexdiisa dadka qaarkoodna wuxuu gaaraya ilaa rukbatayhi lawyaha dadka qaarkoodna wuxuu u gaaraya ila al-ajuz oo sinta ah meesha dharka laga guntado halkaas uu gaaraya dadka qaarkoodna kaliyaha ayuu u soo gaaraya dadka qaar kamidana garbaha ayuu imaanaya dhiiski dadka qaarkoodna luquntu soo gaaraya dadka qaar kamidana wuxuu gaaraya afka dhexdiisu gaaraya markaas uu xakameynaya dadka qaarkoodna isaga oo dhanba waxa daboolaya dhididkiisi waa muquuranaya gudihiisu ku jiraya u fiirso marka dhididka karkarayana waa ku haystaa korna qoraxdii baa ka haysa xaalad adag haddana waqti dheer baa lagu jiri waqti dheer 50,000 oo sano 50,000 sana 50,000 oo sano baa haddana xaaladda lagu dhex jiri xaalad sahlan ma markii la dhibaatoodo oo la rafaado oo la kadeedmo ayaa marka waxa la leeyahay war sidani waa dhibanahay ilaahay tabaaraka wa tacaala aan erga u dirsan rusushii ilaahay soo dirsaday khiyaartii aan dirsanno markaas waxa loo tagayaa ulul azmi nabiyullaahi nuux baa loo tagi nabi nuuxow sidan ilaahay noogu tago noo weydii sidan in nalaga bedelo markaasuu nabi nuux wuxuu leeyahay maya rabbigay maanta wuxuu cadhaysan yahay cadhowsan weligii cadhoonin ma hortagi karo nabiyullaahi ibraahim baa u tagayaan ibraahimow nee erge rabbigay maanta wuxuu cadhaysan yahay cadhowsan weligii cadhoonin ma hor istaagi karo ninkii meesha istaagi laamay nabi muusa la soo maraya sidoo kale nabi ciisa la soo maraya sidoo kale akhiira nabigeena loo iimaanaya salawaatu rabbi wa salaam alayhi arintii ma u sheeganayaan markaas uu nabigu tagaya salawaatu rabbi wa salaam alayhi arshiga hoostiisu ku sujuudaya sujuud dheer maxaamid farabadan iyo waxba ilaahay u furaya
markuu muddo wajiga dhulka ku hayo ayaa rabbi wuxuu leeyahay tabaaraka wa tacaala muxamadow madaxaaga kor u qaad ka soo toos sujuudda waxaad rabdo weydii waa lagu siin shafaac waa laga aqbali markaasaa nabigu sallallahu alayhi wasallam wuxuu weydiinayaa rabbigii tabaaraka wa tacaala khalaa'iqdan inuu kala xukumo oo nin walba meeshuu lahaa geeyo oo dhibka ka saaro ummadiisana si gooniya buu nabigu salawaatu rabbi wasalaamu calayhi rabbi ugu weydiinaya halkaas markay dadku sidaa u dhiman yihiin ogow oo dadku isku mid ma ah dad carshiga rabbi bay harsanayaan marka dadku dhididka ku dhex jiraan oo qorraxda halka loo keenay oo banka ay tuban yihiin qaar baa ilaahay carshigiisa harsanay oo waxaan socdiyo dhibaatooyinkan oo dhanba aan war ka haynin amalkoodii iyo caqiidadoodii baa halka geeyay akhlaaqoodii iyo suluugoodii baa halka geeyay ilaahay tabaaraka wa tacaala bacda idnihi wa tawfiiqihi tabaaraka wa tacaala halka markay tahay rabbi tabaaraka wa tacaala wuxuu furayaa marka xisaabtii baa la furayaa rabbiga baad hortagi wa amma man khafa maqama rabbih wa naha an-nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiya al-ma'wa rabbiga baad hor istaagi maxkamadiisa lagu geyn markhaatiyadii baa la soo diyaarin malaa'iktii wax ka qortay baa joogta diiwaankii laga diyaariyay baa yaala faylkaagii baa yaala dhulkii aad dul joogtay baa markhaati furi cid walba oo wax kugu cadayn lahayd baa la keeni maxkamadda rabbi tabaaraka wa tacaala baa lagu soo hor istaajin kadibna rabbi tabaaraka wa tacaala su'aalu kula yeelanayo xadiidka cadi ibn xaatim bukhaari iyo tirmidhi ibn maajah iyo axmed baa soo saaray wuxuu nabigu sallallahu alayhi wasallam ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu laysa baynahu wa baynahu turjuman mid idinka mida ma jiro illa haduu jiro rabbigii baa la hadli doona toos asagoon loo dhaxaynin wax turjumaanana uusan u kala afcilinaynin فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه ميدك تهدات فيرس وعمل كاغي بدح بو فيرين مسوا عمل كيسي هرتي سو فيرين مسوا نار جهنم العياذ بالله ولا عليني وصوفر بحزنيس او انت سو هوغان لغو هاي انت سو خريق لغو عليني halkaasa marka su'aalahani ku yaalaan maxaa lagu weydiinayaa waxa lagu weydiinayaa xadiidka Abu Barzah al-Aslami sida ku Tirmidhi qeyrkii soo saareen la tazulu qadama 'abdin yawm al-qiyamati hatta yus'ala 'an arba' ila afar lagu weydiiyo dhaqaaqi mees afar shay baa laga rabaa jawaabtoodii laga rabaa maxay tahay an umrihi fima afna umrigaagii xageed ku dhamaysay imisa sanaad noolayd 20 sano 30 sano 40 sano 50 sano muddadaasi xagee kaaga baxday sakan daqiiqad saacad baa lagu weydiinaya xagee baad ku bixisay maxaad qabanaysaa umrigaagii waa lagu weydiin ka jawaab su'aasha labaad waxa weeye وعن جسمي فيما أبلاه جيركاغي حاجات كو بابيسي لو أنك أركي الروح والبمركو دشو او كوري دلنيريه جيركيسو waa jir is haysta waa jir adag waa jir xoog leh xageebu ku dhamaaday shaqada qabanaysa maxaad xamaalaysa maxaad ka shaqeynaysa maxaadays inta jirkani baaba'ay shaqadu ku baaba'ay maxay ah mudaaca ilaahi bay ahayd ma aakhira u diyaar garowgeeday ahayd ما عبادي أهيد ما حرام بيهد ما حد كشقينيس جوابتيذنا ولا قربا وهاي سؤال الشخص هذه أي تهي وعن علمه فيما عمل أو فيما فعل علمي قاقي يا وحاد برتي وحاد كقدقنتي وحاد برتي قرآن برتي سنة برتي علمي يلتي ما حد كعمل فش مسوحي حالكاغوها مررت لا أدري وان مقلي مسكوا عمل فلن أول سالا معه سؤال أفرادنا وحوي وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه
xoolahaagii wixii ku soo galay xagee buu ka soo galay xagee beese ku bixisay shilin kasta sumuni kasta taana kasta waxa lagu leeyahay xagee buu markii hore ka soo galay am min halaalin am min haram ma halaal jidkeed buu kugu soo galay mise jid xaraam taa haddaad ka lug baxdo waxaa ka dambaysa su'aal laba xagee baad ku bixisay afi halaalin am fi haram ma meel ilaahay ogol yahay mise meel uu rabbi ogol yahay xagee buu kaaga baxay su'aalahaasi say u adag yihiin waxaad ku garanaysaa inaysan sahlanayn maanta hadda waxaan joognaa barqinkii intuu waagu ku bariyay saacadii ku maray kaliya hadii lagu weydiiyo kama jawaabi kartid sooma 5 saac baan joognaa ku dhawaad taqriiban ilaa waagu intuu bariyay hadii lagu warsado oo mid iyo daqiiqad la isdul taago shaki male inaad ka bixi karin maxaad u malaysaa marka cimri 50 sano ah 60 sano ah 30 sano ah su'aalihiisa maxay kula tahay hawl sahlan ma ilaahay tabaaraka wa taala hanoo fududeeyo oo nama fadeexeeyo rabbigeen tabaaraka wa taala adoomadiisa markuu saa ula xisaabtamayo oo xaaladahoodii adduunyada su'aalaha laga weydiinayo rabbigeen tabaaraka wa taala adoomadiisa qaar kamida uu xil asturi qaarna waa la fadeexayn qaar khalqigoo wada arkaya hortooda lagu xisaabin markaas la lacnadi qaar kamidana ilaahay astur iyo meel qarsoon buu su'aalaha iyo xisaabta ku weydiinaya xadiidka safwan ibn muhriz al-mazini ayaa wuxuu leeyahay nabigu sallallahu alayhi wasallam wuxuu leeyahay safwan annagoo nabiga la soconna waxaan u jeedaa ibn umar anoo la socdo buu leeyahay abdullah ibn umar ibn al-khattab oo gacantiisa aan hayo ayaa nin baan ugu soo baxay buu markaas wuxuu ku yiri ibn umar kayfa sami'ta rasuulullaahi sallallahu alayhi wasallam fi najwa faqa ama koodida faqa ilaahay adoomadiisa dhexmari doona maxaad ka maqashay nabigood ka haysa markaas wuxuu yiri rasuulkaan maqlay sallallahu alayhi wasallam isagoo leh inna allaha yudni almu'min fayad'u alayhi kanafahu wa yasturu ilaahay ruuxa mu'minka buu u yeedhayaa waa soo dhaweynayaa wuxuu qarsoodidiisa iyo asturkiisu gelinayaa meel aan cidina arkaynin ayaa lagu asturi markaas wuxuu leeyahay rabbi ata'rifu dhanba kada ma garanaysaa dambigii hebel ah wuxuu leeyahay na'am ay rabbi ha rabbigayow dambi hebel lama garanaysaa ma xusataha dambi hebel lama xusataha kulli markii la qirsiyo dunuubtiisa oo wuxuu galo dhan isaguna markaa uu yiraahdo wallahi waad halaagsantay kuuba dhamaatay ayaa rabbigeen tabaaraka wa taala wuxuu leeyahay satartuha alayka fi dunya wa ana aghfiruha laka al-yawm adduunka intaad joogtayna ana ka asturay oo kuma ceebaynin oo kuma fadeexaynin maantana waan ku dhaafay rabbiga tabaaraka wa taala fayu'ta kitabu hasanatihi markaasa kitaabkii khayrkii xasanaadku ugu qornaayeen baa la siinaya midigta laga siinaya jannada aad baa la leeyahay meesha lagu la xisaabtamay u fiiri xisaabtana waa loo fududeeyay qiraal baa la keenay intuu qirtay baa laga saamaxay meesha lagu la xisaabtamayna waa meel asturan oo rabbigiiba asturaya tabaaraka wa taala amma gaalka iyo munaafiqa ayaga khalaa'iqda hortooda xisaabtooda la bandhigaya markaas waxay leeyihiin هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين كوا ويكوي ربي كركيسا بين كل شيء لعنتها كل على الظالمين تكركو كواسي الله فوقيو ماشا صار لقول حساب تمي مركا حساب تاسي إلهي تبارك وتعالى دتكيسي في عنا أهل كيسي أدونك مركا يتشوغين يقاني وخيرك كود ذلك شري حساب تا إيضا أولا قفض ضينيا فسوف يحاسب حسابا يسيرا واحد حساب فضل حساب طبعا على قوضة النبي صلى الله عليه وسلم مال المالمها كمذا وحيلي من نوقش الحساب عذب روحي حساب تلقوات كيو وقضب للفين دعيله إن ير للسنة التاقون وحبال لغا طافين روحا سوى العذاب بالنبي صلى الله عليه وسلم مركز عائشة وحيتري ورسول الله يسوء إلهي مردهن فسوف يحاسب حسابا يسيرا سو قرانك حساب فضل ما شيغي markaas nabi wuxuu sallallahu alayhi wasallam aisha taasi xisaabtan ka hadlaya ma ahe ardi baa la yiraahdaa waa bandhig
adoonka ilaahay tabaaraka wa tacaala dunuubtiisa intuu soo bandhigo adoonkuna qirto ayuu rabbi ka saamaxaya laakiin ruuxii xisaabtiisa si rasmiya loola galo oo xisaabi xil male lagu qaado shaki male kaasi waa halaagsamay dadka marka dadna qaarna waa lagu adkayn dadna ilaahay tabaaraka wa tacaala waa u fududaynaya u fiirso maraaxisha aan marayno dhan waa la kala gedisan wax isku mid ah ma jiro dadka waxa kala duwayana waa mabdii adduunka ay haysteen dhaqankoodii adduunyada waa qiyaamada marka la tago iyo meesha marka la joogo xalkeedu inuusan sahlanayn quraanku meeluu ka cabiray rabbigan wuxuu yiri tabaaraka wa tacaala yaa ayuha an-naasu taquu rabbakum inna zalzalata as-saa'ati shay'un 'adiim wardadu ilaahay ka baq oo is ilaaliya gilgilida ay saacadu gilgili doonto qiyaamadu ay kownkan gilgili doonto wax weyn waa wax fudud ma yaani buuraha iyo dhulka iyo kulli baa la isku garaacaya qoraxdan iyo dayaxan iyo muxuu ahaay xidigahan iyo waxan oo dhan waa la baabi'ina wax alla wixii aad arki jirto dhan baa la isku riiqaya yawma tarawnaha tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tad'u kullu dhati hamlin hamlaha wa tara an-nasa sukara wama hum bisukara walakinna 'adab Allahi shadid maalinka midii wax nuujinaysay hooyadii ilmaheeda nuujinaysay ilmaheedii waa halmaamaysaa hooyo wax la arko ilmaheeda ugu jeceshay ilmihii saa ay u jeclayd maalinkaasi meeluu jiro iyo meeluu ka dhacay nafteeday la cararaysaa tii uurka lahaydna wuxuu ilmuhu ka soo dhacayaa iyadoon isgaranayn fool iyo rafaad iyo kadeed waxaasoo dhan waxaa ka daran dhibka ku haysta markaasaa ilmihii iska soo daadanaya iska dhacaya dadkii baad arkaysaa adoo moodaya inay sarqaansan yihiin wax khamra cabay oo sarqaansan baad moodaysaa itijaah male meel u socdaan iyo meel ka socdaan oo wareersan yihiin sida rabbi aayad kale ku tilmaamay kal farashil mabthuuth bala layla firdiyay baad moodaa mar xagga isu daba marayaan mar xagga u yaacayaan itijaah male rasuulku sallallahu alayhi wasallam waxa la yiri tabaaraka wa ta'ala dadku ma sarqaansano khamra ma cabin maan dooriye daroogana mayna isticmaalin laakiin cadaabka ilaahay baa adag xaaladda taagan baa waxay tahay xaalad dadka ka sarqaamiso lala wareero weeyaan markuu rabbigan tabaaraka wa ta'ala adoomada kala xukumo xukunkii waa ka marka waxa la siinayaa ruux walba diiwaankiisii iyo wixii laga soo qoray baa loo dhiibaya فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية روحي مؤمن كها كتاب كيس ميدك تالك السينية كتاب كيس هدو أركو خيرك كويا الله أبال قدك نحريستي وناك مركو أركو dadkii buu leeyahay umqra'u kitaabiya warkaalaya kitaabkayga akhriya kaalaya ila arka wax meesha ku yaal inni dhanantu anni mulaqin hisabiya waxaan hubay adduunka markaan joogan ku tala galay inaan xisaabtayda la kulmi doono nin xisaab ku tala gashan baan ahaa nin isdiyaariyay baan ahaa kaasi wuxuu rabbi yiri fa huwa fi 'ishatin raadiya nolol raali ah ku qanacsan yahay raalina looga yahay buu ku jiraa janna saru ku jira jannada iyada amiraheedu waa dhow yahay markaas la leeyahay waxaas cuna cabitaan kana caba mid boogaagsil oo leedin la jecel yahay maxaad ku hesheen bima aslaftum fil ayyam al khaliya maalmihi tagay adduunyada waxaad hormarsateen oo soo shaqaysateen fadli ilaahi baa jannadii khayrka lagu helaa laakiin sababtu waa amalka allah bixiya laakiin sababu ku bixiya كي كلا واك وأما من أوتي كتابه بشماله روحي كتاب كي سبيل إحدى اللوغة دي وبيد إحدى ولي بحق الضباء وراء ظهري سقوا حلي يا ليتني لم أوت كتابية ولم أدري ما حسابية يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا
فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون أدونك لكري وأدونك كبري دين ديدي عبادة ديدي حمان لك كري وايي ربي وحليه تبارك وتعالى مركي كتابك سبيد إحدى اللقصي وحليه شالlaytadayde hoogayo baaye maxaa kitaabka la iisi maxaa la iigu dhiibay walam adri ma xisaabiye xisaabteeda ma ogaadeena alla xisaabteeda maxay oogaysi ha ya laytaha kanat alqadiya shallayte hoogayo baaye geeridii aan dhintay maxay u noqon weyda midda ii dhamaysaba maxaan taa ugu tagi waay maxaa ii soo saaray ma aqna anni mali xoolahayga waxba iima tarin halaka anni sultaniya awoodaydi iyo madaxnimadaydi halaagsanta madaxweyne iyo wasiir iyo magacle iyo xoolo iyo kulli meesha ma yaalaan wixii iga baaba calaalka markuu galo ya rabbi wuxuu leeyahay khuduuhu qabta faghulluuhu katinadeeya thumma aljahima salluuhu kadibna jahima galiyo ku guba ثم في سلسلة درعها 70 ذراعا فاسلكوه marka jahiima dhaxdiisa aad geysaana silsilad 7 dhudhun ah ku xidha silsilad naarta dhaxdu ku jira ma bixi karaba hadana ma dalika meeshaas lagu silsiladeynay maxaa sida loogu galay wuxuu rumaysnayn Allah weyn muusan rumaysnayn masaakiinta in la quudiyana dadka muusan ku boorin jirin maraday sidaas tahay meesha waxa uu ku leeyahay waxa way waa biyo kulul iyo cunto yaani waxa weeyaan cunto iyo xamiim midna malaha illa min ghislin dadka ahlu naarka qashinka iyo carunka iyo malaxda iyo qashinka ka daadanaya ahlu naarka cuntadiisu waa unta gaalo iyo dad xun u baana cuna waxaas xaaladu waxay tahay marka walaalayaal xaqaa'iqdaasi waa xaqaa'iq la mari doono intaasoo dhan waxaa kaaga sii daran rabbi markuu xukumo xukumkiisana uu gaadho oo lagu xukumo camalkaagi iyo miisaankaagi wax kasta lagu siiyo waxaa ka dambeeya hawlan saalanay iyaduna bankii baa laga dareerayaa dadka qaarkood rabbigood bay aadayaan iyagoo wafdi quruxsan aad u labisan oo qiimo badan oo dhalaalahaya rabbi wafdi ahaan bay u aadayaan dadka qaarkoodna ayagoo la jiidahayo oo wajigiya madaxa lagu jiidahayo oo katiinadaysan oo xidhxidhan waa laba suuro aad u kala fog kadibna waxaa la mari doonaa naarta jahannama korkeeda rabbi tabaaraka wa tacaala wuxuu nabigu sallallahu alayhi wasallam thumma yu'ta bil jisri waxaa la keenayaa naarta jahannama korkeeda waxaa la dhigayaa buundo fayuj'alu bayna dhahray jahannam naarta jahannama korkeeda buundada la saaraya saxaabadu waxay ya rasuulallaah mal jisru buundadaasi maxay tahay jahannama korkeeda la saarayo wuxuu nabigu sallallahu alayhi wasallam madhadatun mazallatun alayhi khatatif wa kalalib wa meel dhuuban yani waa jisri aad u dhuuban oo haddana lugtu aynan qabaninoo lugtu ka simbirraxanayso dhinacyihiisana waxaa ku yaala biro waaweyn oo afgodan oo dadka dafaya markaasaa nabigu wuxuu sallallahu alayhi wasallam halka markay dadku marayaan waa siraadkii naarta jahannama korkeeda waay cid kastana way mari doontaa sida rabbigan tabaaraka wa tacaala quraanka ku sheegay وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا مد إذن كم إذا مجره إلا ماشا وكو أروري دونا وامري دونا صالحة طالحة نبيك رسولك كله والله وضا مري دونا مؤمن كي كافر كم ماشا سيمركي لمره والنبي صلى الله عليه وسلم المؤمن عليها كالطرف وكالبرق وكالريح روحي مؤمن كيف يعنى meeshaasi wuxuu ku gudbayaa sida ilbiriqsi oo kale waaba dhaafayaaba qaar waxay ku gudbayaan sida hilaac oo kale biriq qaar waxay ku gudbayaan sida dabaysha orodka badan oo kale
qaar waxay ku gudbayaan sida fardaha dheereeya ama geela dheereeyo kale iyagoo ay gudbayaan nabi sallallahu alayhi wasallam fanaajin musallam dadka qaarkood waa qaar badbaaday oo iyagoo bad qabo nabad qabo oon dhibi qabanin meeshii dhaafay wanaajin makhduush dadka qaarkoodna waa badbaadeen oo waa baxsadeen laakiin birihi baa intay qabteen bay hoolhooleenoo ayagoo dhaawacay fakadeen qaarkood meeshii si fiican intay u mari kari waayeen oo la qabtay yaa waxoogaa la yara xagxagtay oo la hoolhoolay ayagoo dhiig ka daadanaya meeshii ka fakadeen oo mareen ومكتوس في نار جهنم قارنا جهنم دي كهوسيسي بابا لغو دادييبا ما فكرين ايو حتى يمر آخرهم يصحب صحبا بالنبي صلى الله عليه وسلم إلا كأقدم بي أمر ميشا إيدا إساقو اللي تشيدا يتشيدد وحو قاديد كدك تواه لغيه سيكو مصع بل والا تشيدا يا وچيقا لغو تشيدا قاديد كاسي حقيقة إيمانا يا ميشا لغو مري وحو النبي صلى الله عليه وسلم تجري بهم أعمالهم تدك وحا أي فولا يانو كو قد بيان وأعماشو ديوه روح عمل كيسا كد نقونيا سيدو أها وكلا في عنايين مد وحو نقونيا البرقسي مد هلا عاصو نقون مد فرس ديريا مد عمل كيسا لقابنا يوم مركاسي بهلو قبصانيان مد عملو كو قد بممالهو نارتا لغو توريا حالدو مركي هالكا تاغنتا رسوشي إلهي صوت ديري لنعيهي تاغيهين وحي ليهن ربي سلم سلم عيد قالوا هالي كرتا مجرد ربي يو بدبادي ربي يو بدبادي ربي يو بدبادي بالرسول شيء هذا هذا الكلام مجرو وركلنا مجرو حالتها سنة وحالة نسوغيسة تامر كات كغدبتو صراطك إلهي بهدون نواد كوغو مريو oo aan lagugu dhex tuurin ba wal ciyaadu billah halka markii laga gudbo janno iyo naar baa loo socdaa intii naarta loogu talagalay waa la daadiyay inta jannada loogu talagalay baa gudbaysa markay gudbaan intayna jannada galin meel dhaxa lagu hakinaya meesha markii lagu hakiyo wixii ay qabeen baa loo kala qisaasaya waxay qabeen isu geysteen baa loo kala qisaasaya kii dhiig qabay kii xoolo qabay kii cirdi qabay ruux walba oo cid ka galay dambi meeshaasa looga goynaya oo laga siinaya wixiisa ilaa rabbigeen waa caadil tabaaraka wa tacaala adli meeshaasa la rabaa inta xuquuqdoodii loo kala gudo ayagoo qalbigoodu saafi isu yahoon xiqdi isu qabin inay jannada galaan meeshaana maxaa lagu siinayaa dadka dulmiday aflagaadaysay dhiigooda gashay cirdigooda xamatay dib u geysatay maxaa la siinayaa ilaan maalinkaas saaxiibo isaamax ma jirto هذا الرخيص تاو فضوده لكن ما نكا صاحبه اسكا كي عفي ما جرت ما نكاسي اما عمل كاغا لا سين صلاه هذه صون كاغي حج كاغي waxaad soo shaqaysatay baa la qaybin oo dadka loo qaybin hadii ay dhamaadaan ama wax ku filan ba laga waayana xumaantoodii iyo sayi'aadkoodii iyo dambigoodii baa lagu saari kadibna adaa cadaab ku gali naar baad ku gali dad badan oo muslimiinta ah ayaa jahannamo ku daadan doona iyagoo muslimiin ah markaas muslimiintii gudbay baa u shafeeci doona rusushii baa shafeeci doonta ayagoo dhuxuloobay oo naartu gubtay oo wajiga meesha sujuuda amooyaane meel kale aan laga garanaynin oo dhuxul noqday ayaa marka naarta laga soo saaraya shafaacaday ku soo baxayaan ilaahay naxariistiisa ku soo baxayaan sidaas ay janno ku tagayaan jannadu marka waa hoygii abraarta iyo dadka wanaagsan halka maxay yaalo barwaaqa maxaa khayr ah maxaa naxariis ah maxaa waji rabbi oo la daawada ah maxaa rida ilaahay ah maxaa halka yaala quraanku aad buu uga waramay intii naar iyo jahannama la geeyina hoygoodu halkaas uu ku dhamaaday maxaa ciqaab ah oo maxaa cadaab ah oo maxaa dhib ah oo maxaa kadeed ah halkaana qaar baa ku dhamaaday labada markii la kala galo ayaa sida nabigu sheegay salawaatu rabbi wa salaam alayhi waxa la keeni doonaa mawdkii baa la keeni doonaa waxa la dhigi doonaa ahlu naarow war kuwa naarta ku jiro soo istaaga leeyahay
soo qoraansada ahlu jannow soo qoraansada soo fiiriya dhexdoodaa la keenayaa mawdkii oo loo soo ekaysiiyey wan neef idaa markaasaa waxaa la leeyahay ma garanaysaan kan muxuu yahay waa mawdkii maaha malaggii maaha ee waa mawdkii geeridii oo loo ekaysiiyey shay ayaa meesha la keenayaa markaasaa la leeyahay ma garanaysaan waa tii geeri la dhihi jiray waa la gowracayaa hortoodaa lagu gowracaya markaasaa rabbi wuxuu leeyahay yaa ahla annaar khuluudun walaa mawt wayaa ahla aljanna khuluudun walaa mawt ahlu naarow waa saad u gasheen waana waarid aan geeri ka dambayn bixid iyo warkeeda iska badaaya xataa dhiman maysaan ahlu jannowna waa waarid aan geeri lahayn kana guuri maysaan kana gaboobi maysaan kana geeriyoon maysaan halkaasaa lagu kala dambayn doonaa marka su-aashu marka waxa weeye rixladaa dheer iyo safarkaa dheer iyo manaasishaa la marayo iyo akhiiran hoyga kama dambaystee lagu dambayn doona waxa xadidayaa waxa weeye bacda fadli illaahi tabaaraka wa tacaala waa adiga iyo camalkaaga iyo caqiidadaada iyo akhlaaqdaada iyo dhaqankaaga kaasaa ama dhankan ku marin ama dhankan ku marin fariiqun fi ljannati wa fariiqun fi saciir halkaas qaraaba wax anfici mayso faidaa nufiqa fi suuri falaa ansaaba baynahum yowmaidin walaa yatasa'aluun nasab ma jiro qaraaba ma jirto bal dadka aadba ka carari waa ehelkaagii wey bal ayaga inta naarta lagu daadiyo inaad adigu badbaadaad jeclaysa hooyada iyo aabbaha iyo carruurtaada kulli inta cadaabka lagu daadiyo inaad adigu fakato baad maalinkaa dooni lahay yawaddu lmujrimu yowmaidin yawaddu lmujrimu low yaftadii min cadaabi yowmaidin bibaniih wa saaxibatihi wa baniih wa fasiilatihi alatii tu'wiih yani waxa weeyaan naftayda su-aashu waxay tahay marka ama kama damaysta warka gabagabadiisa iyo gunaanadkiisu uu yahay xaaladahaasaa soo socda iyo xaqaa'iqdaasi su-aashaad isweydiinaysa waxa way maxaa kuu diyaarsan maxaad diyaarsatay maxaa kayd kuu ah su-aashaad jawaabteeda markaad hesho haddii si wax kaa yihiinna weli jaanis baad haysataa isdaba qabo haddii ilaahay tabaaraka wa tacaala wax wanaagsan ku waafajiyeyna siyaadi oo sii badi oo kordhi hadday si wax kaa yihiinna isdaba qabo intuusan jaanisku ku dhaafin lamana yaqaano goortuu ku dhaafi doono waa wax ilaahay tabaaraka wa tacaala la jira waa gacan uur ku jirta ma garanaysid goorta lagugu imaan doono ee isdiyaariya oo mar walba adoo diyaarsan ha lagu yimaado walaa tamuutunna ilaa wa antum muslimuun xaalad kasta isu diyaari kuna talagal in geeridii kuu imaan karto degmaddanna lagaa rari karo xaaladahaa dambana aad waajihi doonto insha allahu tacaala ilahay waxaan weydiisanaynaa tabaaraka wa tacaala inuu khaatimo wanaagsan nagu dilo dariiqa wanaagsanna na waafajiyo caqiido wanaagsan iyo camal saalixana rabbina siiyo tabaaraka wa tacaala qabriga iyo imtixaankiisa iyo cadaabkiisana naga badbaadiyo qiyaamada iyo ahwaasheedana ilaahay naga xifdiyo ilaahay tabaaraka wa tacaala jannadiisa firdowsa inuu nageeyo cadaabka iyo cadhadana rabbi tabaaraka wa tacaala naga xifdiyo hada billahi tawfiiq wa sallallahu wa sallam ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam بالأمس كان جليسنا واليوم لاحدناه من كان يسكن بيننا في القبر أسكناه بالأمس كان جليسنا واليوم لاحدناه من كان يسكن بيننا في القبر أسكناه على عمر الفتى وشبابه وصباه يا صاحبي كيف الردى والقبر كيف تراه على عمر الفتى
الفتى وشبابه وصباه. يا صاحبي كيف الردى والقبر كيف تراه؟ قد حال أنسك وحشة والقبر أغلق فاه. اليوم وراك الثرى رحماك يا رباه، رحماك يا رباه. بالأمس كان جليسنا واليوم لحدناه، من كان يسكن بيننا في القبر أسكناه. ما زلت أسمع همسه متقطعا أماه، وأنا جوار سريره سارت إلي يداه. ما زلت أسمع همسه متقطعا أماه، وأنا جوار سريره سارت إلي يداه.